السلام الله عليكم شنا قليل سود وهذا دمانتي بميل كستوعات جوكتان أنا في عنتهين تعاف ما قبتان أيها رجينية وحين كجرنا أسبوع اللباد بشهر جولاي ما أنت وكوي تكون كجولاي لبض نستحلاتنك وحين جوكنا تلادو وزوم كين كواد صدح الزوم أسبوعين دوبنا طبعا ساعتين بأول ويكند كزوم درب سوق الجرنية ويكند كهري أيان أرضي أسشين بس سنين شلي سنين تكسي هوريس أيام أسوي شيء next week نيسان أركضوني وأن أنا ما كلكم مشغول سنان دون إن شاء الله مركا basically زوم كان في نقطة يامد جوجو هوريو أسبوعين سركنا ما دام سنين يو حتى هنا إلى سركن سود وهذا أنا يقول لك إن ما كستجوبتان أنا في عندي مرجيني عاف ما فتان ورك وينايو و NFP وينابا إنتو دي بدن وعينا دافع اللهم صل على سيدنا محمد والله CBI وبرجل وديس ويك أربعة زين وسلهي دونا سامين تقول لي يحيى نحر كيسة سوقا iyo qodobadiisa waslixi doona insha Allah sidoo kale waxaad ogtihiin jimcadii inaan galnay zoom yara ka duwan zoomka aynu gali jirnay oo ahaa zoom ku saabsan su'aalaha iyo jawaabo si khaas uga hadlaynay mawduuca loo yaqaano personal development-ga iyo horumarinta qofka naftaada inaad horumarisid oo levelka aad joogtid levelka fiican inaad gaari kartid su'aalo yar yar oo arrinta ka soo noqday zoomkeena inaan ku duuban isku dayi doonaa oo ma garanaysaa la xiriira qodobo aad moodid inay yara xasaasi yihiin marar badan qaybtiin marka qodob fahamtaan personal development ku saabsan oo qodobkaasi uu qiimo gaar ah ku yeesho adiga waa ugu soo noqotaan waxaad raad macallin waxaan saa u fiican maxaa marar noo fahansiin sooma macallin cilmigan iyo macluumaadkan heerka sarada waxaa ula aamusnay waa marmar tirahdaan intaad dib ugu soo noqotaan sababta wax kale ma adiga ayaa marka hore u diyaarsanay waxaa laga hadlayay inta badanna qof walba waqti ayuu qodobada qaybtood soo gaaraya waxaa laga yaabaa waxaan aniga inaan always sheegay laakiin adigu markaas arrimo kale inay kugu taagnaayeen oo waqtigan kale oo ay si fiican ku dhaadhacaysa arrintaani inay ahayd waqtigii kugu habboonaa midda labaadna waxa weeye mawduucyada noocaana marka laga hadlayo waxa loo baahay discrete waxa loo baahay waxyaalo badan inaad xiriirisid haddaad tiraahdid kalaya visualization iyo waxaan sameynaynaa manifestation warrood naga tag baa lagu leeyahay xanawaalina waxaan khiyaali baa ka sheekeynaysaa lagu leeyahay mogta balse qofku markuu isagu soo furfurmo oo isagu maskaxdiisa uu u diyaariyo in wax lagu kordhin karo oo isagu caqligiisa u diyaariyo wax lagu kordhin karo markaas it's very easy si yar oo basiida bay mawduuc ku soo gaari karaan marka publica guud iyo ummadda guud ee banaankaas joogta intaa mikrofon qaadatid lama dhex wareegi kartid saana la sameeyay because adiga inta kuu muuqata in shan kuno jibaarkeed ka badan baa qofka gadaashiisa ka socota waxaa laga yaabaa beelkiin uu taagan yahay waxaa laga yaabaa inuu xanaaqsan yahay dad ishayaan waxaa laga yaabaa niyad jab iyo mawduucyo waaweyn inay maskaxdiisa occupied ku tahay waxaa laga yaabaa wax kale oo marka isaga la weyn oo laga yaabo inaysan qiimo bilaa lahayn laakiin isaga qiimo la leh ayaa laga yaabaa inuu markaa ku mashquulsan yahay xataa waxa aad sheegaysaa hadday wax fiican yihiin oo malabkii adduunka yihiin aadan ka dhaadhicin karin marka idinkana markay maskaxdu idin furmato warka meesha aan ku soo socdo halkaas ma idinkana markay maskaxdu idin furmato oo qodobo badan aad fahamtaan oo personal development-ga aad fahamtaan dadka hala hor ordinina aniyo arrin cajiiba soo ogaada kaala hadhiy qofkaas waxaad isku daydaa in waxa la yiraahdo bal horta aa wareysatid aa baarbaartid nooca qofka uu yahay fiirisid daa aragti inuu yahay qof diyaarsan oo runtii wax badan fahamsan oo iskuulkii koowaad ilaa 12aad hadduuba dhigtaba wax ka dambeeyey hadduu baaray oo internetka baaray cilmi raadiyey oo bugaag akhriyay haddaa u aragti inuu qof noocaas yahay is very easy markaa inaad hagtid ama aad qodobada qaybtood kala hadashid laakiin haddaad ku tiraahda kaala fiiri arrintaana ii shaqaysee adigu shaki kugu abuuraya adigu ku wareerinaya adigu waxa la yiraahdo madaxa kaa gelaya adigu wuxuu ku siinayaa maxaan ku yiraahdaa mushkilaad kale oo aadan ka bixi karin buu furaya marka arrintaas waxaan rabaa inaan si faahfaahsan uga hadlo zoom qaybteeda dambe aan ku horumarno technicalkeena insha Allah maadaama aynu shalay iyo daraad aynaan gelin technical fara badan soo ma idin garata okay bismillah shaqadeena shirkaysanana insha Allah seen isku fiirino isbedelada iyo waxyaalaha dhacay iyo suuqa iyo xaalkiisaba ta ogtiin borta asbuucan waxa la yiraahdo arbacada ka hor
wax badan ma jiraan oo shalay oo wax la yiraahdo isniintii ahayd ninka la yiraahdo Governor Bailey ayaa hadlayay ama ninka ugu sareeya Bank of England ayaa xadiina hadlayay waxa la yiraahdo isniintiina hadlayay maanta oo talaadaah waxa jira iyaduna waxa way climate change aan wax la xiriiraa shaqada shaqaalaha filaya yaana khaldaneen soo ma jeedin climate and employment change ayuu la xiriiraa UK ku soo baxaya wax kale oo weyn ima muuqdaan aniga biri adana uu hadlayaa mar kale maantana uu hadlayaa Bailey laakiin biri duhurka New York session waxa jira CBID runtii muhiimadiisa gaarka ah leh sidoo kale waxa jira interest rate-kii Canada asna waa jira biri okay waxa la yiraahdo arbacada sidoo kale waxa jira 10 year bond auction-kii oo ah dadka boonka maal gashta wixii 10 sano u dambeeyay boonk muxuu soo celinay xog ah baa la soo bandhigaya ayadana khamiista warar waaweyn waxa jira Maxamed GDP UK waa jirta Mareykanka unemployment claims ku soo baxaya USD soo kale BBI ayaa soo baxaya jimcada FOMC ga qof kamid ayaa hadlaya Europe na waxa filayaa inuu ka jiro bank holiday sidoo kale jimcada consumer sentiments kaasna wuxuu soo kordhin karaa G20 wana waa ay hadlayaan G20 ma taqaanaa ya G20 ma taqaanaa G20 waa 20 dawladood awood isbidaya oo raba inay adduunka iyagu maamulaan warshado badan bay leeyihiin wax soo saar badan bay leeyihiin shidaal maaha kuwani horta waa G7kii oo lagu daray Canada iyo Italy iyo France iyo Germany iyo Japan ma kuwaas waa G7 kuwa taqaanaan US intaas waa G7kii 20 industrial nations waaye oo G7 ugu horeeyo marka I think in Sacuudiga iyo Turkiga halkan xataa ku jira waa 20 dawladood oo warshadaha ugu badan ee adduunka leh soo saara marka waxyaalo badan oo waxa laga sheekeyn doonaa arrimaha la xiriira G7 kuna 20 kaasi ka sii laandheeraysan yihiin G8 bay ahaan jirtay ayaan dhaweyd waxay ka saareen ruushka ka saareen ayaan dhaweyd waagi hore waxay ahaan jirtay G8 bay ahaan jirtay hadda G7 baa la dhahaa marka iyaguna waa ay jiraan marka waa iska asbuuc runtii asbuuc iska boorin ah waaye inta badan waxaan ku tiirsanaan doonaa asbuuceenan marka CBI-da biri laga yimaado inta badan waxaan ku tiirsanaan doonaa technicalkeena aan always ku tiirsanaa laakiin ma rajaynayno in fundamentalku suuqa dhinac u jiido just trendiga inoo socda baa xooga saari doonaa haddaan ku bilaabo dabcan dollarka haddaan ku bilaabo setupskiga shalay kala xalay ayaan hagaajistay intooda badan walow saaka aan haddana sii update gareeyey sida arkaynaba jana kalayaal isbuucii ka horreeyey zoomkeenu inoogu horreeyey isniinta waxaynu xusnay inaan filayno dollarku inuu hoos aado arin talaadadii sidoo kale inaan iyadana saa ku celcelinay walow aan jimcadii iyo islahayn kor baa loo socon karaa sababtoo ah asbuuc markuu suuqu inoo bilaabanayay meelahan ayaa la marayay asbuucii ka horreeyey markuu suuqu bilaabanayay waxaa la joogay adiga around here ayay ahayd kadib weekan korkaan tagay ayaa waxaan rajaynaynaa one hour inuu kor socon doonaa saate muusan socon isku soo wadadu it's really simple oo wax aad u fudud waxaynu arkaynaa 4 hour zone-kii in la respect gareeyay sidoo kalena new 4 hour low inaynu haysanno oo kandalkan waa dhammaaday ma la oran karaa sooma so we have an official 4 hour low ayaan haysanaa iyo official 4 hour lower high labadaba waa haysanaa waxa loo yaqaano dollarkuna inuu hoos socon doono ayaa la rajaynaya arrinaan awalba u dhundaloolnay oo rajaynayna ayaa ahayd sababtoo ah interest rate kor loo waday ayay joojiyeen last month so what do you expect markaa waaya shayga kaliya ku ilaalinaya haddaad tiraahdo ilaaliskaaga uma baahnaya iska joogniyo dee waxaa weeye suuqa normalkiisa ugu shaqayn doona and I think inay diyaar u yihiin inay iyagu diyaar iminka u yihiin inuu suuqu hoos socdo mar aysan diyaar u ahayn baa jirtay inuu dollarku hoos socdo iyo maray diyaar u yihiin oo ay xamili karaan ma fahmaysaa
shaqooyinkii la rabay la abuuray nambarada waaxaha kale dhaqaalaha dalka nambarada meesha la rabay la gaarsiiyey marka janagalayaal warku nuxkiisu iska kooban yahay from 4 hour to 1 hour to 15 minutes everything is down everything is going down which is really amazing and I like that because warku wuu cad yahay waxa fiican suuqyadana ay kala yihiin waxaan u baahanahay in soo sokeeyo waa 15 minute higher low meelaha lower high meelaha laga sameeyo si lacagaha dollarka aan anigu soo horjeesano runtii inagu USD CAD iyo USD JPY iyo USD CHF na selka raadinayna euro USD GBP na buy ka raadinayna marka waxaan moodaa kulligiin inay la qabsateeno shantaydii lacagood kulligiin ku soo ururteen I really didn't want in idan ku khasbo shanta kaliya ka trade gareey laakiin waxaan moodaa ina idina iskiin waxa weeye aad xoog u saaraysaan waxa weyn ka faa'iidi kartaan runtii waa xasilooni waxa ka faa'iidi kartaan dulqaad ina baratid waxa ka faa'iidi kartaa extreme focus ina soo qasiisid focus waaliya ina soo qasiisid waxa loo yaqaan wax la ilaalin karo haddii aad tirahdid JBP JPY euro JPY CAD JPY NZD CHF kulliba waxa ka raadinayaa scenario 3 scenario 4 waa wareeraysaa wallahi فاهمة مدرك العام وحكوا في عين أسبوع ولا 20 لبضع الشدن بقى حقق عن كرتها صدق حافر شن لحتري هادو جيلينك هورا وحكوا ولا معنا صدق البري ولا أسبوع لبضع الشنيد وحلقة يابا خميس مع الله بقى حين اللي إنتري يشاء سو مركز قناة جدول كلا ملوش هذا كله نورمال كان وات كحلين كرتها سرتان ماشى كوتشرتنا وحكلا معه ضدك واوين institutional traders واوين أنت أنا يتري الكريان حتى قيبتود انت ومر كسيرتها والله ما صدح لعقود كليا يكون كينين marka dadweyne ka warhaya last 2 weeks suuqina dhagaa ka tunteen last 2 weeks ciidka iyo weekii ka dambeeyaba waxa weeye wax rajeynayaa inaad fursado badan oo qurux badan qaadateen dhalinyarada qayb waxa jirta runtii cidii ku dagaalan waday oo dhinac kasta suuqa ka fiirinayay marka janagalayaal horta biaskayga hadaan u gudbo ama aan ka gudbo DXY-da ilaa biri waxa laga yaabaa suuqa iska jiitamo okay ilaa biri waxa laga yaabaa in suuqa iska jiitamo oo biri New York session marka la gaaro ayaa dhici karta in fursaduhu ay badankoodu abuurmaan wax kalena ma aha CPI-ga ayaa la sugayaa waxa laga yaabaa CPI-ga ka horna intriyaasha la yimaado kadibna CPI uu suuqa dhaqaajiyo فهمت سماها waxa ugu weyn marka halkan aniga aan sugayo maxay tahay ama waxa ugu simbalsan halkan aan ka sugayo maxay tahay any kind of pullback 1 hour pullback da hela fiican 15 minute pullback da hela fiican 4 hour pullback da hela fiican hadii xoogaa la sii socdo oo pullback to meelan ka soo bilaabato fiican I don't care all I care about maxaa weeye I need a pullback because tareenkan soconayo boostejo soo istaagaan u baahanay Soomaa yeah so this is really very simple week hadaynu fiirino lacagaha kalena kulligood isku damay waxay kala duwan yihiin dhammaantood trend clear ku socdaan dhammaantood isku noqodkii iyo consolidationkii waa ka baxeen new price points ayaa la gaaray for example suuqan markuu halkan tagay suuqan markuu highgan tagay oo ahayd 22 June that was the new price point Soma price point-ga cusub maadaama la tagay price point-ga magacii price point-ga waxa la yiraahdaa 1.101 ay ahayd meeshii la tagay then suuqan kale oo soo laabtay marka oo iskulki laga yimid ayuu ku laabanayay laakiin the highest price point kan ayuu ahaa so markasto new price point la gaaro maxaa filanaysaa dhexdiisa in fursadu ka abuurmaan ayaa filanaysaa hadii marka price point-ga mid ka sareeya la tago maxaa filaysaa ayagana sidoo kale maxaa filaysaa fursado kale inay halkan ka abuurmaan Soma I hope not see the family side. So it's always good in a new 4 hour higher high, new 1 hour higher high, new 4 hour lower low, new 1 hour lower low. In a heshi is always what fear and way. Market trader time was Ukarajin is a garon or sub, your area or sub alategia, which means school allowed or sub Babylon because school allowed Canada like Casamina, counter trendy school of Nokonia. aynu fursadaha ka dhisnaa marka hadaa aragtid lacag xawl u soconaysa dhiin iyo lacagtan iskaga soconaysa that's a good thing that's what's supposed to happen wixii la raba inay dhacaan weeye taas ifahmsa okay marka exactly hadaynu ku socono marka euro USD runtii waxaan arkaynaa iyadana waxa uu dhan inay jibisay oo xataa adigina 4 hour ka siin karna 4 hour kanalkaas sidoo inuu dhamaado imika waa dhamaaday ma la oran karaa
يا حتى واحد يركور إنت أنا سوق جرين باقي قيمين يا 4 اور كان كان يرسوي إنه وحوي إنه صاير لابطان يرسوي أنا هو واحد ما يجوز كده هذه ماله always 15 minutes كان اللي لا لكن 1 hour كمان اللي ثانية 15 minutes هو temporary always بس كده اللي ذكرتها كان قدم بيمركوي ماذا كان الكاس علينا لما سويها مركزان 4 اور هاي وسي لكن ستيل 1 اور كايا فيري كلير سوما 1 اور كايا وحان هيسنا 1 اور هاي كان الكام بول في عام بيل 1 اور هاي لو هيس كان كو حدو هيسنا امبلس فلاد با بلودي انا 15 minutes كانوا انو فيلان yahay inuu la socono ilaa shano 15 minutes kana actually waa isku mid oo 15 minutes high waa kana 15 minutes high low waa kana 15 minutes high is kalena isagana waa kaasa maybe in zone kan koro naga koreeyo marka la tago aan bulback fiican sugno fahmaysan this area marka la yimaado ama dhulkan naga koreeyo marka la yimaado ayaa laga yaabaa in bulback soo bilaabato marka the first 2 hours of London session waxaa dhici karta suuq inuu areas tago oo sii wado new price pointska kadib ama enough bulback inuu siiyo seen kor ugu sii raacno ama 15 minutes kala soo kala wareejiyay seen hoos u raacno mid xaataba ala ay xal dhaqaaqyada hadda socda inay inaga istaagaan baa sugayna way fahamtay Soomaaliya galiin runtii waana wax aad u basiido qof kasta basic technical ku bilaaban yahay wuxuu fahmi karaa way wax oo scientific proof balaya u baahan maaha idinkoo dhan indhaha waa kala furi kartaan suuqu muxuu horay u soo laaban la yahay muxuu la dahdahayaana ugu ma caro karto suuq adiga kuma kala jecla xataa inaad ku jirtid kuma oga inaad trade garanayso maanta dadka suuqa ilaalinaya inaad kamid tahay xataa kuma oga okay أول أنا قاعد أنا يرد إلى رجلي قضبة تريال laga yaabo qofka wax fahmaya inuu xamil karo ayaa si guud uga dhici karnay si qof aan waxba baran oo ugu khasaarin ama qof aan filinka si fiican u fahamsan oo ugu khasaarin levels baa jira Soomaaliya traders marka la yahay kala sarsareeyo qofka meel buu joogaa level ahaan marka dad waxaa jira level ahaan wali xataa conceptigooda oo scenario 2 scenario 3 fahamsanay maskixiyan ku adag maaha inay damiinin yihiin wax aqoon laakiin waqti ku filan baysan joogin baatistan ku filan baysan arkin traders ku filan oo arrimaha ku saabsan baysan arkin dadka awal aniga ayaa korkiis ka saari jiray mas'uuliyadooda inaan ilaaliyo balse ayaan dhaxay I think February meelaha inay ahayd waxaan ku ballanay qof kasta inuu isagu ilaaliyo anigu aan cidna ilaalinteeda mas'uul ka ahayn aniga waxaan mas'uul ka ahay inay information-ka ku soo gudbiyo idinkuna inay is ilaalisaan idinka ka mas'uula saas ma qorshayn يا قف كستين إسرائيلية سجال الغرباء قف كستين سجال الغرباء إنه فيديو ولا بتشر صدق شرق عشته وحي أي تحي إنه باكتستين وقولي من تحي وأي تحي إنه مور باكتستين كسوسة مي سجال الغرباء for me what's my job وحوي إن أكون شغل إن أكون قيح فورمولا إن أكون قيح تنواتن تاسواتاس that's my job لكن هذه الجوب حوي مركب يحلو شغل إن باكتستين كوفينا كسميسي إن أكون على الفلسيد إن عندنا عياد كلام إن عياد بدن أو كل دول نوي حياة كيستان فاهم مثلا بنا تدا فهمتان لعقت لي هذا جي بي بي اس دي يمكن يد واحد جوكتا وانا ورزون بيت جوكتا سيدو كل يد أول با 4 hour trend يد وأشري سيدا كان كاركنا 4 hour higher 4 hour higher low 4 hour higher كان يعني جوج شلي 4 hour higher low 4 hour higher official يعني يمي سيدا أركيسان so 4 hour أبترم وياه sidoo kale 1 hour kuna abtran way iyada sida arkay sidoo 1 hour down train ki jiray dhaqaaqyadan loo dhowrka ah ayaa jibiyay so kan marka hore lama xisaabinay laakiin marka jibisku yimaado kadib ayaa la xisaabinaya xataa kan waa xisaabin kartaa balse tusaale ugu filan baan qaadanay higher low iyada marka waxaan ka yar fakarayaa in igahan aan liquidity ka raadiyo 10 minutes-keeda intaan u tagto ولا دي زوي بعد عايزين تجنن نبقى عيسى قرية استاذ تريد فيجي وحباك خلدن وكل يجي بقى مسؤول على لقبة صار عام فيرا أنيجا دي إكس واي أبترن إذا كانوا عايزين دون ترى متاعية محينو نراهنا نكاس ملا دي إكس نوع كلام وهستاي أنتنا هاي يا
How is that possible? Time frame kami okay, that's a very good way. Time frame kama kala duwan. ما dx y ma kala iyada oo waanta iyo fx waxa ma kala kaftana waa meeshada kaftan ka daaya odayga su'aal jini weyn oo rununa weydiinaya inuu ku ciyaaraysa ya Activity kalkan kala qaadi karnaa induskan u dambeeyay action isku mid way wax oo dhan higher highgaas u dambeeya jana kala time-ka weydii the time-ka wal screenshot iga soo qaado waxaad igu soo dirtaa Discord halkaan ka fiirinayna inaad soo xiriir ama waxa ku soo dirtaa inta linkiga soo qaatid saano kale inta halkaan taabatid maarat kadibna aad tiraadid copy link inta aad tiraadid maarat kadibna waxa ku soo dirtaa chat-ka Zoom ku soo dir saanka wada dhufsan I really need pullback iyadana tan sidoo kale lacagta laftirkeeda pullback ayaan uga baahanahay waliba xataa in si fiican loo soo laabto dhulkan hoose la yimaado ayaan uga baahanahay janagale USD iyo waxa la yiraahdo GBP/USD almost isku dhexdaan waxba kama geli karno saacidin sheegana de istiyaaris badan ku jira iyo isma garanaysa new faces cusub baa la gelayaa bisha July ilaa June bilow ilaa August bilowgeeda dhulkii loo socon lahaa ayaa la gaarayaa imika waxaad baagtay ku soo samayn kartaa suuqu sidaan oo kale ayuu ahaa June bilowgeeda sanacsta waa tan June markii dhalatay 6 June new area-dana la yimi jibinta markii dhacday bullback baa helnay hadana new area la yimi bullback baa helnay hadana new area la yimi June oo dhan saas u ahaa waa sidii oo kale marka waa suuqina lacagtan inay soo laabato insha Allah exactly imbalance-yada in la soo xiro ama xataa haddii aan la soo xirin in zone-ka yarka intii la jabiyo 1 hour-ka ay meesha ku jira kan weyn 4 hour-ka haddii la tago isaguna ka sii fiican marka ishaan ku haynayna insha Allah haddii ilaahayno soo iyadoo iska qaab weeye aan fikrad yar idinka siiyo tan iyo isii jabbeed fursadii aynu qaadanay way ka mid ahayd group 3 of our trades keenana insha Allah waa ay ku jirtaa sida ka war haysaan trade oo asbuuc ka horeeyay jirana halkaas hore ayuu ahaa area for the future reference meeshan iska yaalaan baa rabaa laakiin I think in a new for hour ba iyadu doon trade dhinaca Soomaa 1 hour-ka 4 hour-ka kulli waxay ahaayeen dhinac kasta isku waqti ay ahaayeen oo hoos ayaa loo socday the new 4 hour ma helnay new 4 hour waa haysanaa new 1 hour waa haysanaa new everything waa haysanaa lacagtan kowde USD CHF iyo USD CAD waa labada lacagood oo maanta ilaa bixi aan isleeyahay inta NFP-ga koor wax waa laga heli karaa iyagu way soo yaraan laaban karaan laakiin euro USD iyo GBP USD waayo iska socdaan laakiin USD CAD oo iyagu oo aan fursado yar waxa ka wada CPI intuu ka soo baxayo ilaa bixi USD CHF iyo USD CAD iyo USD JPY waa saddexdaas waxaan isleeyahay way soo yar laaban karaan oo si kastoo doolarku daciif yahay kuwan uu ka adeegyaa mar kasta waa isaga bullback-yadan hadda halkaan ka dhacay euro USD iyo meelaha qaybtooda kama dhicin exactly mid journey baan ka hadlayaa Axmed Safiir isag mid journey ma haysan xogtiis iyo ChatGPT marka tan 15 minutes ayaan bullback ka rabaa insha Allah waxaan waa ka heli doonaa ayaga kuwan inta ilaahay nafta inagu simo waxaan waa ka heli doonaa kuwan حتى كان هو السون كان وزادين لتجا مركز لصول لابتو حتى مركز لندن سيشن فورماتو لندن سيشن نيويورك سيشن انت لجارين وحرجينا حتى 5 minutes كاهات if we get some kind of bullback صدقين هلا I think إنه إحنا كثير لازم كرنقوان because we كير رونيين يو سيدو كلا USD JPY وعلامد iyaduna waxa waaye dhinac kasta doontaan way laakiin fiiri chance-yada hadda way bilowday ee Soomaaliya already waxaan ka hadlayo lacagaha kale oo bullback sameynayna iyagu bullback hor bilaabaan ayaan rajaynaya so I think in an 15 minutes hay halkaan haysano USD JPY I think lacagta kaliya shan inta bixisana lacagtan ay Soomaaliya oo soo socda USD kaada maxaa lacagta kaliya ee shalay inta bixisay tan ay ahayd inta fiican waliba xogaa fiican dhaqaaqday dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystayna waa ogaa kulligiinba waldan marka
waxa la yiraahdo AUDSD safkii kuma jirto channel kale AUDSD safkii kuma jirto walaalkii dhowrkii Zumba qof baa iska soo baxaya aan wax naga hayn markaas ku leeyahay macallin loo heblaayo fiiri heblaayadaas fiiriskeeda inaan berro iska daynay ma oga se u ekeed baa iloo naxtaa jaalle inay ahayd iyo guduud inay ahayd yeah heblaayo waxa weeye waa is haynaa heblaayo dagaal baa noo kala dhexeeya I really wish inay tan korkaan soo yara aado because haddii korkaan lasoo yara aado xataa targetkan lower la soo aadayo maxun buu noqonayaa ma jeeda lower lowan keliya in lasoo aado ayaa xataa xdhan ah so I really believe in kor loo soo yar laaban karo oo dhaqaaqan soo socda oo soo socon karo ama xataa 5 minutes oo meelahan ku jiri karo 5 minutes xataa lama wada karo marka ishaan ku haynaa خير إلهي كوبركي so USDJPY I'm interested with it I have waxaan haystaa armiya ku xirxiranayaa meelaheedaan oo dhan waa ilaa shanaya insha Allah sidoo kale dhulka loo socdana lagama fogo dee inaan wax ka bushkareynaa isku dayna forward zone-kan haddiina loo yar laabto maaragtay iminka haddiina loo yar laabto waa isku daynaa dadka zone-ka wax ka gaaraya inaan ka mid noqono haddii all the way korkaa loo soo laabtana kaba si fiican dee iyaduna waa scenario 1 baan raadinanaya 15 minutes kinu soo kala wareego soo ma marka indhuha inoo furnaado ya indhuha inoo furnaadaan okay yadikaas bayna hadaan fiirino iyaduna waa la mid soo ma jeed iyadu already meel fiican ayay maraysaa iyadu waxay kaga duwan tahay lacagaha kale iyadu waa uptrend oo 1 hour-keedu waa uptrend 4 hour-na ma haysato laakiin 15 minute-keeda muxuu yahay 15 minute-keeda wuxuu yahay downtrend aad u weyno 20 leg 1 hour-ka oo kale waxaas maxaa iskugu qabsanaysaa aniga warkaygii baaba cad soo maa scenario 2 iyo scenario 3 trendigooda muxuu yahay trendigo nin baa waxay qorayaa nin su'aalaha soo qoraysaan please public ka dhiga haddii kale inaan ka gudbiyo noqonaysaayo aanan ka jawaabin ma fahmaysaa su'aal markaa soo qorayso waa la dhuumanaysaa si public u soo qor dadka dhan soo arkaan waxa soo qoraysa ana nin baa wuxuu leeyahay macallin scenario 2 iyo scenario 3 ma 1 hour zone baa lagu khasban yahay mise lower time frame zone-ka waa laga qaadan karaa the trend walba wuxuu leeyahay trend buu leeyahay trendigaas soo kuma saaduu scenario 2 yahay scenario 3 scenario 2 iyo scenario 3 waxa la yiraahdo 15 minute way trendigooda soo 15 minutes zone waa ku qaadan kartaa haddii uu scenario 4 yahana 5 minute way scenario 4 trendigooda soo ma soo 5 minutes zone waa ku qaadan kartaa soo ma adan kara marka waxaynu ka hadalnaa daasyoomka duuban aad daawan lahayd waxaa laga yaabi lahaa inaad fahmi lahayd ama trendiska aanu galnay hadaad fiirin lahayd waxaa laga yaabi lahaa inaad halka ka fahmi lahayd macnaha trendigii ayaan yaraynay so zone-kiina waa la yaraanaya automatic laakiin nooc waa jira trade 4 hour zone iyo 1 hour zone-ka keligiis laga dhisaasna waa ku jira tan haddaan u gudbo channel galayaal 15 minutes waa downtrend 15 minutes lower low 15 minutes lower high 15 minutes lower low sida halkan aan ka arkayno meelahan marka 5 minute bullback ayaa halkan ku jirtay horta here hadda 15 minutes waa kana bullback tuxina waa tana laakiin markaa lama qaadan karin trade-kan because markaa trendigu ma cadeyn sama laakiin now 5 minutes aad hoos u jirada so trade-ka hore iska badaaba macnaha trade-ka halkan ku jiri lahaa ay bullback-tiisu tan ahaan lahay waxa uu dhashay iyadoo 15 minute trendigu soo official ahayn soo ma you understand so it doesn't make sense in marka tiraahdo waa qaadan la trade-ka because maba aadan ogeyn meesha loo soconayo markaas laakiin lower low-kan dambe ayaa official ka dhigay downtrend-ka so that's why aan ku leeyahay iska daaka hore dad fahmaysi iminka waxa la yiraahdo horta 5 minute pullback baynu u baahannahay haddii aynu rabno scenario 3 soo maadan karan marka anigu aan scenario 4 ka qaadanaya marka halkaan maaha scenario 4 waxaan qaadanayaa marka uu soo bilowdo pullback soo bilaabato noocan oo kale xataa haddaan trade-ku waayo marka waa qaadan karaa laakiin now haddaan raada 5 minute kan baa fursadda kasii qaadanaya hadde of course waa qaadan kartaa but it's not ideal
wax fiican oo aan kugula talinaya maaha inaad tiraahdo scenario 4 qalalan oo kaligeed hoostaas taa laban qaadanayo ma fahamtay scenario 4 waxa fiican marka aad qaadanayso already inay bullback jirtay oo la soo laabtay yaa midda kale cidna wax soo qabstaan lama ogolanayo qof hadduu tareerka uu si kale u arkayo uma baahnid inaad qanciso qofkaas move on qof wax isku qabsanay fikradda ah wax shaqaynaya ma haddii qof uu euro USD trade qaatay oo xataa uu ku khaldan yahay u ogolow inuu isagu korriimo ka helo and then move on hadduu yahay trade la isku wada raacsan yahay dee anaa soo gelin lahaa sooma hadduu yahay trade la isku wada raacsanayn qofku markuu wax baranayo inaad kula dheganaatay steerinka lama rabo waa inaad u sitaysid so isagu wuxuu u fahmay so dadka dhalinyarada trade garaynaysa weliba dhalinyarada akoonada challenge-ga yaryarka haysata qaybtood waxaa laga yaabaa a lot of decisions inay qaataan oo aysan ka fiirsanayn sometimes qofkii inaad ku caddaysid oo ku qarxisid lama raba marka oo ku qaylisid fiiri fikradda ma ku raacsan tahay haddii aad ku raacsan tahay khayr la raac oo la qaado haddii aadan ku raacsanayn u ogolow waqtigiisa inuu qaato okay u ogolow inuu isagu wixii ka khaldan iska saxo haddii aniga qofkaas ila yimaado oo ku soo dhiirto inuu aniga mawduuca ila yimaado uu weydiiyo aniga marka xaq baan u leeyahay qofka qabto ama aan qaban karin macnaha inaan anigu qabto iraado waa saxan tahay macnaha aan qabto iraado waa khaldan tahay inaad qaban kari waayo iraado may waa saxan tahay hore u soco laakiin idinka dhexdeena markay tahay waxay abuuraysaa tension aan fiicnayn iyo negative energy bay dhexdeena abuuraysaa hadhowna muran baa imaanaya murankuna maxaa weeyaan ku dhahay waxa ugu weyn laba qof isku nacaan waa muranka weligaa qof aad jeceshahay ama rajaca ka leedahay la murmin that's the biggest advice I can give you weligaa qof aad jeceshahay ama agtaada qiimo ka leh ha la murmin haddaa qofka la murantid ama isla murantaan waxaa la qabsanaysaa inay caadi tahay qofkaas macnaha qiimuhu agtaada kala waa hoos u dhacaya marka muranka badan waa la isku nacaa iska ilaali tan waa arkaa janagaliyaal 5 minute kilometer waaye hoos u socotaa حتى فاميلك واردك ولا لها أصحابك قف أو حكى برنسي دتك وين هذه الرضا أبتياش ولقى هالأمر هذا أوقف كأنه خلدية هاي يا حتى هذا الله أعلم موفر بس ده لما رتدوس ده يقف كأو حكى داعي برون كاسو أبورة يا الباب مستقبل كنا قف كاحترام ويدي أما هو عرفت تقف أو حبلت شو جنوني عند عسنا جي وسقف كحلقة يا بالك أرين كخلدريد لكن أرين كله وين إنه كعاولها بعد الحين مستقبليا لكن ما دام قيميه او هيسي او هوس دحاي waxay ma doonto qofka biri kamalana waxba ka dhageysan laakiin aanad ku baraarugsan in sheekadu saasta waan arkaa janagaliyaal trade-ka 5 minute meesha ku jira sida aan arkayna dabcan waxaan jeclaanahay in la jabiyo balse hadii aan isla fiirino asaas weeyaan asaas laga rabaa sibaan man ku garanayaa Mustafa وأركان تريد كهذا الإنسان وكنا is this kind of trade for the Ashaysa. Not saying حق هذا but it's not the best way to trade generally. كم أرانا يحق هذا trade كنا عنه كله وتكليك الأحيان وصحيح حي لكن مش وقطع عي trade حالة وكيمي أيان أحيان حالات كحبون إن فرصة النوع عزو أوليز أما عادة كده هذا شغل ما فاهم وصح liquidity وارنا جبنت وارنا كلابت كورن وارنا هدي halkan yimaado chance baa ka faa'iideysan kartaa laakiin waxa ka fiican fursadda 5 minute ka marka aad qaadanayso inay tahay fursad 15 minute oo shaqeyn weeday oo aad dib u sii raacday meel socota fursadday waxa ka fiican 5 minute ka chance laga qaadanayo sida caadiga ah waxa ka fiican 5 minute pullback la soo sameeyay 5 minute pullback inay fursad dhalin weeday ama ay dhalisay marka iyada laga yimaado oo hoos marka loo socdo maxaa isku halaynaysaa marka waxa isku halaynaysaa 5 minute ka cusub oo bilowday waxa isku halaynaysaa dhulkan hoose ayaa isku halaynaysaa waxa leedahay chance kan ayaa dhaca laakiin in here you have nothing you have no target waxa isku halaysiin maxay marka I hope ina fahamteen waxa aan ka wada trade hada aragtid marka trade noocaas oo kala oo adigu alla maman tahay oo la qeyreysan tahay anoo ka dhacay hada aragtid this is why because trade masaxaya kaliya lagu trade garay waxa sidoo kale la rabaa inaad trade xisaabta kugu jirto xagee trade ku ka dhacay target nooceeyo haysta inta index baa la socon karaa hadii laakiin trade noocana expectation fiican ku dhisto waa chance fiican baa soo baxay ma sha Allah euro London session ka faa'iideysta rala xagga ka dhacay baada tiraadi and then trade ki 10 bib intuu bixiyaa oo iska dhaqaaqo niyad yar baa ka qaadaysa laakiin aadan dareemin oo back on your head macnaha halkan gadaala waxa ku fadhiya shaki yar oo ah
inay trade-ka maxaa kugu watay bal afka ka dhihi maysid dadka u sheegi maysid oo trade-ka labaad saddexaad baa raadinaysaa laakiin deep down hoos marka la iskugu noqdo nooc yar oo shakiya gadaal kuu fadhiyay mana kuu fiicnaa shakiga noocaas because trade-ka labaad iyo trade-ka saddexaad oo laga yaabo kan inay ka fiicnaan lahaayeen ayuu kaa yara khalkhalinaya see fiican labada fursadda noocan haddii jirto laakiin low lowga la jabiyo that is amazing markaa kuguma qabsanayo حتى سيدي شكله كسعته كله هذه لو قال لتشبيه كتب اللي ما 5 ملم تريجان that's amazing I love that one لكن متى عندي ترى واحد تاعي في 5 ملم بالغو سعودها 5 ملم كان وسود داره ماركسها impulsive إنا impulsive كيسا يرجع عندها راعي لو راعي أيام وحيستا ما في هذه لكن نيو impulsive أي سميسو لو قال لغو اسمره دبل باك في عنا يسوس سميسو تريد كنا عاد impulsive كان كي كوري بول باك ساكت ماشي بول باك كان تريد كديس لا كما ديسنا بول باك كوري سما كديس in that case that's a good trade. Thank you so much محمد عبد الرحيم عير وأوجه waxa aan ka hadlayo wixii aan ka hadlay markastana waan ku celcelinaya because saaka in lahaba dadka qofka markuu waxba arinta diyaar u yahay ma fahmo mise jeer ba aragteen same topic ana always ku celcelinaya because marba qof baa u diyaarsan qof waxa laga yaabaa maanta challenge ku taagan yahay ama account Facebook ninka gudbiye raba oo arintiisu ku taagan tahay markaad aragtid waxay keenaysaa macnaha qofkaas mowduucyada qaybtood inaysan ka qaadicin isagoon ku diiday oo ku dhahay macnaha ima coach gareyn karta aysan ka ahayn xumaan ka ahayn haddana duruufta uu ku jiro iyo xaaladda uu ku jiro uma saamaxayso mowduucyada ka hadlaysa qaybtood inay gudihiisa galaan soo qofka ha u caroon hala yaabin ha eedayn ha charge gareyn okay qofkan ha charge gareyn ma fahmaysaa waa mowduuc aan dhaqan ku leenahay haddaad hore ugu baraarugsaneen oo amoodaysa adduunka kale nala qabo adduunka kalena lama qabo dadyoga horumaray ama reer galbeedka xataa eeshiyaanka ku dar eeshiyaanka muslimka waxa ku dartaa Malaysia iyo Indonesia iyo dhulkaas xataa xoogaa ku dar waynaga yar fiican yihiin cadaanka soo qabso reer Yurub iyo America qofkooda maalayacniga ma charge gareeyaan waxay dhahaan keep going you're doing good qofkooda fiican ma charge gareeyaan waxay dhahaan keep going you're doing good صح arrinta maxay keenaysaa marka in dadka uu ka soo dhaxo qof waxtar leh maanta bulshooyinka caalamka ayaa waxa ugu badan soo saara waxa ugu badan xagee ka soo baxaan update-ka ugu badan caalamka maanta xaguu ka socda like meel yar baa ka tusaya dhow dhulkaas ka socda Soomaa ma reer galbeed ka socda dhulka reer galbeed ka socda dawada ugu fiican adduunka waxa lagu saaraa Yurub iyo America baabuurta ugu fiican adduunka waxa lagu saaraa Yurub iyo America madax gacmeedyada iyo technology-ga iyo telefoonada iyo waxay macnaha fikradda ayaga leh waa laga yaabaa warshad inay China ka samaysteen oo hadda mobilka iPhone-ka aynu haysano warshad China ku taala ayaa lagu sameeyaa oo Chinese ku xamaali laakiin fikradda iyo shirkadda ay iskala nin Mareykan ay iskala baabuurta Sweden ee Volvo la dhaho birahooda China lagu soo sameeyaa laakiin Sweden baa lagu xirtaa macnaha waxaan marka kaga soo wadaa inaan suuqa qabtiyaa raba maanta update-ka ugu badan caalamka wuxuu ka socdaa dhulkaas gaalan Soomaa waxyaalaha marka u sahlay inay halka saas ahaadaan waxa weeye dadkooda mid xun iyo mid fiican toona inta ku dhagan iyo inta aan ku dhaganayn waxa aqoon inta aan ku dhaganin macnaha laguma dhagana qofka oo lama charge gareynayo lama xukuminayo lama dhahayo maxaa ka khaldan waxa u sameynaysa war maxaa ka khaldano waxa uga hadlaysa war yaa ku dirsaday sheekadaas qofka wuxuu nin baa ayaan dhaway odaya baa ayaan dhaway soo baxay ma qan hadda wax ku dhacay nin odayo garcad oo Facebook ayaa ma dhaway soo galay ma qan aragtay oo ka sheekeynaya si u taajiray waa dhif in aragtay qof Soomaali ka sheekeynaysa u taajiray iyo kambaniyadu maal gastay isaxaniyo magac uu lahaa hatta dhow bay ahayd ayaamii Ramadaan kadib inda buur baan filayana magaciisu ah islaha reeraysan itaag commentiga fiiriya dadka dhan waa maxaa nooga sheegay hadda lacag shaqaysatay hayma marka ma noo sheegay marka waa hadda lacag shaqaysatay adeeg ku taala saas ka dhabatay magaca ilaahay saas ka dhabatay maxaa nooga sheegay waya adeer marka ma nagu xusane yaa ku dhaa noo sheeg ayaa lagu leeyahay marka maaha adi laftirkaagu inaad tiraahdo dadkan waa dad waalan oo iyaga aad charge garaysin lama rabo fiiri iyaga inaad charge garaysid adi laftirkaaga lama rabo oo tiraahdo dadkan maxay ninka u charge garaynayaan adigu ina iyagii charge garaysin lama rabo maxaa rabaa inaad tiraahdo marka waxaan waa dhaqankeen qofkan xumaan kama aha gudaheena fog ayay ku abuurantaa
awowihiis ayaa sidaan ahaa Soomaalidu waxay dad faan badan oo qab badan Soomaali iyo Afrikaanka iyo Carabta inta badan dad qab leh bay ahaayeen boqortooyooyin baa ka jirtay Soomaali jeel baa Soomaalidu lahayn beeray lahaayeen qayb waxaa jiray kalluumaysataa kalluunka heer sare ka joogay waa la iskugu faani jiray marka soo haddii la arko qof geel yar automatically muxuu ahaa dhaqanku waagaas jiray in lala yaabo luqad waxaan geel la haystaniyo gabdhahooda xataa in la dhaho lama guursan jirin oo dad isaa ku abaadeen sheekada qabiilkay gashay markii dambe Soomaalida xagee ka timi qofka laangaaba qofka laandheera xagee ka timi waa nooc judgment here ka waxa ii jireen wax hadda bilowday ma laangaab iyo laandheere iyo adaa fiican iyo adaa xun wax hadda bilowday ba wax generation influence marka ha isku eedayn hadda aragtid qof aan qiimo balaa ku tuhmaysay ama qof aan ku tuhmaysay qof wax la jooga oo arrimaha ka sheekeynaya hadda aragtid adigu laftirkaagu isaga ha sii challenge gareena waxa tiraahdaa dambi male isagu waa maxay dhaqankeena iyo qaabka awoowayaasheena dhaqmi jireen ayaa saasan ma fahmaysaa inuu ku soo dhaqmaya marka nuxurku muxuu yahay sheekadan oo dhan waxaa nala galay daarada qof xukminaya hala yaabin okay عابتنا مع عادتنا وياه أذو لكن هكو بيري وهذا أذو إلى هكو وحصة حمارة عيبه وضح كمين أسأقول مين وحصة أي روايتنا وحكمية ده أذو ده وحصة حسيب أذو ضد كاسي حكمي حربي قلت هدي حكمين شرتنا كانوا بنا آدم بعد قفا حكمين كرين مجرو مريا الله بوحة وجودها كاجا شرتها ما قرأت مركا تدور أداتك قربها كل شيء وحوار كما هيان weliba qof qurbaha ku dhashay waxaan nooga sheekays ama qurbaha ku koray madaxa kala dilaacaya waxyaalaha qaybtooda uga sheekays Soomaaliya iyo qaabkay u dhisan tahay dawladaha iyo maamul goboleedyada iyo waxa uga sheekays dadka qurbaha ku koray ama ku dhashay wallahi waxa weeye inay khafiifaan ku dhawaanayaan because they have no idea what's going on maba ogadee maba u bilowna sheekada إنسان هذا يصاب حين ضل يغان دقن عن دوفين وبدن بصاب حين على هذا يجوا ولقوا وطن كبحين حدنا لما وضع دقن على سنيه أمر بحين ضدك حكم إلى كينيا يكون كوري قربها يركع ضدك كوري حتى إثيوبيا ضدك كوري على ورك ما هي وحيالها سو دقن على سك عادي جاي قربها فوق شوقة محمد رحمن ما هنا ما غيو عليه معناه خلدين ما هنا ليه لكن ريالتي جود أساسا موضوعية لغا شكيني وحقوق ما بلونا وهذا ورئيستان وقضبضا قيبت كشكستان هذه كلها يابا you serious وقفت مسانا قد عيارتي كلها yeah okay guys long story short work أسكسو كوبنا لنعا technical كذا وركوده إسرائيلي سيخوده بدن كله إن شاء الله أنا حاليا لما أوجه إراده أسبوع قرح بدن بينو كجرنا جنا كليان سيدا إنه أركننا سوق دون ترامويه in the X weather which means dollar بينو ليتو we need bullbacks so أنا وانت سيدي أيانتي دويل هالكان يد على فيدي أيان ده حين أود عم تقانا لو ترين كاني مركب ويمي أنا نشون إنه هيد بلوغيدي لو ترين كان مركب ويمي so لابد كي bullback عن كفنا إنه bullback موسى نقونه isagii baa training noqday oo dhaqaaqyadan daatay intooda badan chance inama aysan siin so hopefully inaysan sidii oo kale noqon ayaa rajaynaya okay hopefully sidii oo kale inaysan noqon baa rajaynaya dhaqaaqyadan imbalansiyada ah in qaab training lagu soo xiro san fursado si uga xirno ayaa rajaynaya waxayna ka bilaaban doontaa 15 minute keenana isku hayno oo hadii aynu aragno 15 minute bullbacks isagayna la shan doona hadii laakiin 1 hour keenan ordinka la jabiyo kadibna korkaas lagu noqdo ayadana yeesan la yaab ugu noqono dee ayaanta dhaweed waxa sax nagu dhacay ayaanta dhaweed halkan lower high lower low wala soomaha waxaad ogeyd maxay waxaad ogeyd meeshan ka filanayna isaga inaan bullbag fursad ka helno in all the way wixii dhan la celiyay kor loo celiyay so waa shaqo cusub ayaamahan uu wada dollar laakiin waa la gurinayna waa fahmaysaa soomaa hadba labada waji ki uu sameeyo hadii bullbagta ina siiyana fursadaha hoose u raacayna hadii aan aragno in wixii ayaanta dhaweed dhacay marka la sameynayna dee waa la kala wareegayna oo dollarkeenu la jirsan doonaa adiga jacayl gaar uma qabtid inaad dollarka soo horjeestid ma fahmaysaa so that's the biggest part here aan ku siin karo waxa la yiraahdo
اللهم صل على سيدنا محمد دي اكس واي 4 اور اول بدون ترند بهد وين دون ترند كذا ayaa ku socotaa channel maxamed amiin oo iska soo sax marka halkaas dx way markeedii horeba down trend ay ahayd welina down trend ayaa ku socotaa 4 hour oo 4 hour lower road u dambeeyay kan waxa candlekan weyn ayaana ka hoos maray sida arkaysid ma garat indhoweed trend ugu down trend waxa wanagi doraada aan ku celcelinay 4 hour lower high loo socdaa 4 hour lower high loo socdaa 4 hour lower high markii liimina waa tii laga soo daatay marka trendigaaga forwardkina ku noqotid baa u baahan tahay lacagaha kale intooda badan waa la mid waa DXY oo aan BS marin USD hadaynu ku bilowna maxaynu sheegnay USD waxaan ka sugaynaa maxay inay pullback samayso sidoo kale waa suurtagal baynu niri pullback inay hadda la bilaabino horey loo socdo zoonka la tago kadibna lasoo laabto sidoo kale GBP/USD waa la mid baynu niriyo ayadu wayba samayso waxaan ka hadlaynay in horey loo sii socdo waa suurtagal kadibna pullback si fiican u soo bilaabato miday ahaataba weli dhaqaaqan waa socdaa so London session markay furmato weli aynu hadda hadlayno London session ma furmin sababta zoonkeenu u soo galnana waxa ugu talagalnay before London session inaynu waxba suuq qacaysan soo ma adi malajana ilaahay ku caafi marka xisaabta ku darsada insha Allah London session wax isba bedeli karaan lacagaha sida gaarka u xiiseynana waxa kamid ah USDCH Falastina waa soo noqon kartaa oo fursad yar yar keeni karno waxa la yiraahdo USDJPY sidoo kale waxaan rajaynaynaa iyaduna inay waxa la yiraahdo iyana chance yar yar pullback dina siiso USD kaada ugu dhowna iyadana sidoo kale waxaan ka filanaa chance yar yar oo pullback inay siiso oo inoo fursad yar yar ka qaadan karna waxa ugu weyn oo aynu sugaynaa asbuuceena waxa weeye biri 3 iyo 30 galabnimo ama 15 iyo bar waxaan sugaynaa in dollarka uu ka soo baxo newski ahaa CPI-ga sidoo kale أسبوع لحد سنة ولا صعنا بحيث بدله it's gonna be a good week for me إن شاء الله and for all of us تسان رجيني وعرفنا إن وحير كه الله مرك أكهل نسيت موضوع يدان personal development أما هرمون أنت النفط يدالك أرمها لحير يدان تذكر أنت وضع بدنا وما ديار سنة برتقالك سوى عادي سنة هذه قاسي مرة أقول ديار سنة بجرو لأن يرى تذكر إيرجلية أكفتن كذي جنشت وحتى إنك يا دقيسنا يا دي كتب على غياب يعني جت سما تذكر مركب بنانك كاتشرة صاحب هذا بابليك جود قيس كذا موضوعها هله الأردن عدي أتوقف شركة إذا كذا حيسو معناها قف عاد شيء كيستان هذا يتحي وحسكو كردستان وتشتان هذا يتحي لجري ونيا واحد بدنا بعتلي ويجي سي خلبوا حجر عن سماية وما سميسا هدي أنا سمين مكاغا كي هدي أرموتها هدو قفتا أمد حفرية حي كان شيكيس وأنا عارف أنا كل شيء هذو قور ما إثبت الشبع إذا دتك ولي إثبت بدل هذو قورت إثبت الشبع هو قورتي أتري وأنا جهبل حبا إذا ما قرب أمبران صور أنا جهبل حبا إذا ما قرب أمبران ما هم مركور واحد أمبران سيو كام قنا إنه بيرسل نفلامنتيرو ما تكنيكال كان مسكول بالوغلا إذا وحي سكول كي جامعات لوكال جامعات أنه كعية تيدنا برنا صوما يا جامعات sometimes كمودا فرح سنة كل قفك كودا جامعات بق فرح سنة أنت بدنا وابين بي 90% سكود وارنا إلى جامعات ديننا لكن هذا كلاس كقيبتني معلم كده كنا assignment أضو عية تيدي يتجسا كل يوم وصودا مرتين جامعات صوما somehow وحكو لا أرد السيدو لكن قيلنا سيدنا سكول كيسنا وركي سبداوي لكن مركب فورك سوق السكوات أني أسومك بس بأسوق يمي على هذا بس محل أسومك حاجة كذا ولا وين كان يقدر أسوم لينكي جيم يدافع you are so excited there's a big difference ماشان كتير مرة there's a huge difference ماشان كتير مرنا على ولا أو فوكس كرينيا أو هراء قاضية أو آمين سن علم يقضب كامقنا إن الرادينس أرنتاس مركا الباب كلا يفرطا الباب كلا يفرط محاكم إذا سلزوم كان يمعني كان يفكر كان يتكنيكال كان أصوب دونتي أي واحد دون تعبيري إن عقلي على بستيد إن شخصية على بستيد إن مون روتين كسميسيد إن بوجاج أخرسيد إن بوجانا أخرسي وحي كتيري أكون أقنتيد أوتوماتيك محمد حاجم يعقوب حاله وحيس أخرى قرال عجيبة وعيرشني تمنكي أسبوع من شنتون ولا صار في personal growth فوق العقل يقول دعي أنا أوجي وحتى مركز دي بحساب تماما أركيا قفكي عن حالة بلود كورنانا maybe إذن كوبدنا إن على قبطان كلمة النوع عاصم إن قاب خاص لقبطان بالغياب
ما فهميسا معناها اسقو wuxuu ku leeyahay personal growth ba igu dhacay laakiin ma ogeyn inaa personal growth ku jiro haddaba waa saasoo adiga iyo qofkan kale marka maxaa kula duwan tihiin maalintii aad tiri fikradaan urursanayaa cilmiyaan baranayaa albaabkii furmay ayaa weli kuu furan kaas ayaa kuu sahlaya marka in uu macno kuu sameeyo yaa qaatay burcadkeygii in uu macno kuu sameeyo buugaanan hadda maalimahan wadaayo aan akhriskiisa wadaa waxaa la yidhaahdaa baraaraha guudka baraaraha guurka ayaa la wadaa waa aragtida islaamiga ah ee habdhaqanka lamaanaha waxaa qoray sheekh maxamed sheekh cabdullaahi cilmi nin la yidhahdo ayaa marka hore waxaa laga yaabaa inaan tugan buuga noocaas aanan ku leexan karin hadduu waddada iska yaalo dadka marka publica ah sheekada halkaas aan u wadna ileena adigu hadda waxaa ku kala duwan tihiin masal qeexnama khasa maa forex liina albaabada kuu furto dhalinyaro kale waxaa laga yaabaa booska forex inay ugu jirto IT bay baranayeen ama waxay baranayeen waxa la yiraahdo wax aan lagu khasbanayn oo iskuul aan loo aadayn ayaa qofka maskaxdiisa furfuray maskaxduna mar haday furmato way baahan tahay it needs more cilmi Soomaalidan arkin ina speed ku socotid oo markii hore aad cusbayd qodobada qaybtood aan laga dhaadhicin karin iminka marka 3-4 qodob iska dhaadhicisina albaab ku dhiibayo because cilmigu waa addictive iyo horoy socodka iyo personal development-ku sida waxyaalaha khaldan bay addictive yihiin waadoo musalsalada daawan jirada musalsal shidan daawatid oo ku raaxaysatid oo musalsalka ku dhamaada maxaa leedahay niyo musalsalkee ku xijiya baa leedahay Soomaa kee kale ku xijiya baa leedahay wasaasoo kale haddii buug akhriska iyo dhinac positive ku timaadid oo hal buug laba buug ku raaxaysatid oo si dhaba ku bedelo oo noloshaada wax ka bedelo maxaa bilaabaysaa kugu xigaya the next day which book الموضوع أنا حسيني يعني book لو كحلي معلنا يتم this is the difference مركا أدين كي يدك أدين بحياة okay أرنتان لا obstruction كا إسلام وكحل سومال كحل إسلام كحل ونيجي حلي من سودري والمو وين السعودية وارتان فهم سن ورسالة كسمعي ودينتك الأحبار وأنا إن سمكن جماعة كل حجرين قرآنك وحبا كما تجين سوما آيات قرآن آيات سوما قرآنك وحبا لغا كما تجين آيات قرآن آيات سوما واحد كستو إيمان دونا واحد كستو جوه قرآنك وكتشران بيت سوما سو مبادئ والسب بناء آدم كمالين بفهم دونا صح هذا مبادئ بدنا واحد شرا بناء آدم كدوانك براروجي وساينس كوجو بدنا يقضى بدنا ساينس كلا دول كان يبدأها نسي وسق شقيان عركة يروب يوحيالها نسي وشقيان قضى بدنا نسي وشقيان سوما maaha inaysan waxaan hore u jirin way jireen anaga aqoonteena gaarsiisneen markii aqoonteenu soo gaarto marka maxaa laga fiirinaya ilaa AI-gan maanta la isticmaalayo waa dhaweed culimadu qaybtood waxay diidanayeen daogtiniyadii kalaba waa dhowtee I think inay 5 sano ka hor ahayd waxaa la diidanaa sawirka sheekh la sawiro waa la diidanaa soma iyo videoga sheekhi hore hadda Facebook bay leeyahay sawiray soo gelinayaan What happened? What changed? أيام كسي في الرئيسي و2000 2001 وحالة دينا ساينسك إن ساينسك عروض الله برا دينا عندي دنا ما جرت هذا ولا قصة ولا إن ساينسك عروض الله برا قيبة دينا أو ساينسك أي فيزيكسك أي كيمستري على برا حاتن سكول الإسلام قاعد ساينس معلومة دينا waxaan ku iraahdaa ayaan dhaxay waxay aad u diidanayeen ilmaha uurka ku jira in lagu fiiriyo ultrasound oo wiili gabar wuxuu la sii fiiriyo ayay diidanayeen haddana khudbad jimcaan baarkiyo la iswaafajinayo ultrasound iyo quraanka iyo inay caadi tahay in bini'aadamku waxa ogaan karaan ayaama dhaxay waxay diidanayeen prepare-ka la isku diray maaragtay sahalka iyo saadka iyo EVC iyo qaybtood diidanayeen Soomaalida dhexdeeda daba waa Soomaalida arrintaas عالم كلامك إنتوا ضبطن شيء عصب مركو صواب وحمرك مش شيء عصب مركو بين عالم علمي جيسو كبر عريض دينتا لو ولا نقطة دينتا خلاص يقول هاي وعادي دينتا لو ولا نقطة كتب قرآن كآيات كسر فهم سبحان ما فرضنا في الكتاب من شيء صمع محامر كلا رباط علماء كلا ليفل أحمر علماء واحد شفت مركو خذ بالسب بين عالم كبر عريض حتى واحد السعودة AI سما AI بقى السعودة حتى أو artificial intelligence يعني مرة وحنا نقول دونا نلاش نقول بلفل جديد دونا AI وهذا أوكتين هذي كلام تلافك ما أنت can you imagine نقول بلا تلاف أنا ما أنت مصورة كرت
nolosha bini aadamka oo maanta telefoon la'aan adiga caqligaaga ma geli karta waxaa la macquul maaha telefoon la'aan in la joogo nolosha dhan baa ku jirta ayaan dhaweyd baa Puntland garowe waxa ka dhacay golis baa hal mar dantay dadka garowe joogo oo dhan marka telefoonka lacagta ugu jirtaa cash dhanka ma jiro garowe kii kabaha baalashayay kii gaariga dhaqayay kii cuntada maqaaxida lahaa kii dukaanka dharka kii kale zambi hal mar dhayaan waa reality check bayaan warbajaajlihii baa wuxuu qaata waaye macnaha telefoonka haddii la dhaho la iska daaya marka sida telefoonku maanta uu halka u gaarsiisan yahay mar waxa imaan doonta AI-gu u gaarsiisan yahay marka maxay imaan doonta culimada qaybtooda inay ka hadasho AI-ga ka sheekayso arrimahooda qaybna si kaystaagto qaybna si kaystaagto maxaa marka sheekada dheer afeefta dheer maxaan kuu siinayaa mawduucyada cusub ee aqoonta u baahan ee cilmiga u baahan haddii wax saxan ay yihiin waxaa jira mabaadii ilaahiya oo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay binaadamku aysan yeelan karin ilaahay baa iskale mabaadii ilaahiya baa jira oo hadda marka laga hadlayo gravitational pullka ma ninka Sir Isaac Newton miyaa ninka gravitational pull fahmay markii horeysa ya Sir Isaac Newton soo baahan ma Sir Isaac Newton baa leh mise wax ilaahiya oo ilaahay markii hore abuuray buu fahmay ya wax ilaahiya oo ilaahay markii hore abuuray oo hore u jiray buu fahmay kadibna waa lagu shabadeeyay waxaa la yidhahdaa qofkii ugu horreeyey ee fahmay gravitational pull of the earth intuu apple ama tufaax intay geed ka soo dhacday dhul ku dhacday buu ahaa mawduucyada ilaahiga marka oo ilaahay horey u lahaa ee uu koonkan ku maamulo bini aadamku caqli bay leeyihiin way fahmi karaan markii ay fahmaanna waxaa la rabaa in diinta lagula noqdo ee diinta laga soo dhex akhristo ee laga dhex baaro aayaad qur'aan ah oo aynan inta aanan shaygan fahmin ka hor sii jiray baa lagula noqdaa culimooyinka caalamka ama dowladaha islaamka sida India, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Imaaraadka kulli waxay leeyihiin guddiyo arrimahan u saaran oo arrin walba cusub oo soo kororta dib baa loogu noqda hadda waxaa la aaday cirka in cirka la joogo oo hawadan laga baxay oo ay soo baxeen macnaha dayax gacmeedku muxuu yahay ways dayax gacmeedku muxuu yahay xagee tagaa qaybtan atmosphere-ka uu ka baxayaa soo maa maxaynu inaguna diinteenu ka sheekeynaysaa 7 samo inay jirto samo walba sharaxaad u baahan tahay soo ma oo arrimahooda fahan u baahan yihiin haddii loo dhan marka nin baa cirka tegay marka waa ka hor oo intuu iska socday oo earthigaan oo dhan buuba ka dhex baxayba hawa sare u jooga caalamku way ka fariistaan fatwooyin baa laga sameeyaa qoraalaa laga sameeyaa dadka lagama qarsado laguma gumaysanaya shacabka waa lagu tababarayaa waa la fahamsiinayaa waa laga dhaadhicinayaa sida qur-aanka iyo qodobkan iska hor imaaneen baa la tusayaa haddii kale qur-aanka shaki gelaya soo maaha haddii wax qur-aanka laga waayo bini aadamkeeno qur-aanka shaki ku noqonaysa culimadan iyo wadamadan ka hadlama maxay sameynayaan in qur-aankii dib ugu noqdaan diintii axaadiistii dib ugu noqdaan shaygan cusub ee bini aadamka ku baraarugay in laga soo dhex saaro qur-aanka horta intaa ma ila fahamteen haddii kale qofku waxa uu indhala-aan wixii diidaya ama yeelaya marka qof shacaba iska badaa culumadeennii ayaan qayb arrintiisa u fahamsanay qayb badan oo fahamsan way jirtaa oo culimada Soomaalida ah ee af Soomaaliga wax ku sharaxa ee arrintan fahamsan ee ka baraarugsan ee ka dharagsan waa jiraan oo qaybtood aan idiin soo diray linkiyada balse kuwa aan fahamsanayn weli waa dad ixtiraam aan u hayno maaha inaan qodobkaas maadaama uu ka soo horjeestay maaha inaan shiikhaagii nacay sidoo culaad u qaadaysid maaha ixtiraam iyo jacaylkaa u haysay waxay keliya qodobka ha ka dhegaysan ila cid kugu khasbasay inaa qodobka asiga ka dhegaysatid ma jirta shiikyada kale aa ka dhegaysan kartid ka dhegaysa adigoo aan shiikh ahayn oo shacaba oo maskiin ahna qof kaloo kula mida arrintii ha isku dayin inaad dhinaca ka soo martid ilaa qof isagu baaritaan waday oo arrimaha inuu iski u fahma doonayay maahee adigu qofka sanka ha ka gelin waxaan waa ku oran amba waa ii shaqaysay kaalaadna ku shaqaysay laakiin maanta maynu isku khilaafaynaa law of attraction wax shaqeeya inuu yahay maynu isku khilaafaynaa in uu yahay wax aan diinta ka hor imaanay iskuma khilaafayna visualizationka waxaan jiraa tusaalayaal badan oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu visualization sameynay oo asagoo awoodo inuu dhaho war aniga rasuulka ilaahay baan ahay waxyi baa igu soo dega asagoo awoodo inuu dhaho ilaahay baa ii sheegay asagoo awoodo inuu dhaho ayuu wuxuu na tusayay tusaalayaal ah in fishil la samayn karo in mustaqbal qurux badan laga fakari karo soo ma markii aan ka sheekeynay qaswadii ahsaab ee godka weyn madiina la qoday rasuulku muxuu asxaabta kula hadlay wuxuu kula hadlay luqad annagu aan isticmaali karno
وداي مركي قدك كل فتان با إلهي وحي تسأنه الروم يا مصر فراننا حتى ولا فرت الروم يا مصر قسراء سوما قرنا سام موسى قرن مركو عليه وحيده إلهي بأي شيء أسوق إيه كري أنا ولا أسيا قاعدين كرني لكن وحنا كتصيا حالة أدق مركو لوجره إن لو قبل حكر إن حالة في على فكرة بكوز مركو نبي حالة كان أحيا محل لوجري حالة وأكيد يقف مسلم لو قلنا هذا لوجري magaaladii Madiina waa muslimkii oo dhan adduunka markaas jiray wixii muslim adduunka jiray oo dhan Madiina ay joogeen Madiina oo dhan ba Afrika laga soo weeraray waxa la rabay muslim dhan inuu soo afjaro oo qabtama muslim ashahad la waayo oo carab oo dhan iyo dhulka Carabiya dadka degan dhammaan isku yimaadeen oo soo baxaysteen 10 miyaa mise 11 qabiil 11 ummadood ba waxay rabeen Madiina dhan inay soo afjaraan asxaabtii rasuulka dadka macna dagaalamaan ma dagaalami karin because waa laga badnaa خدت waxaa keen ahmarka magaalada in lagu wareejiyo god weyn yatana godkaas ay ka soo gudbi waayaan cadow Soomaa godkaas ala qodaya waa dhaxan waa roob gaaja jirta colaad baa jirto biri in la dhimanayo in la noolaanayo lama ogo cabsi baa halkan jirta daa moment qofku miyuu ka fakari karaa marka mustaqbal iyo vision iyo future miyaa laga fakari karaa gaaja xun baa jirto waa tii rasuulku saxaabi baa wuxuu tusayaa calooshiisa oo dhagax ku xiran tahay ولا رسولك لا يقعد دراد العلاش إذا سيدا ودقح وحرا يا فيري راس رسولك تيجي مثلا لا يحفظ وحرا ده الليفل من وكفكري صلى الله عليه وسلم وكفكري مرك الله فرطو مصر ذهب كلا جسوا قادم دونا روجك قروح بدن يهانتي ذا مسلمين تو يكون حيسن دونا ويرس ليتر بإيمانه وقت عمر بن الخطاب بإيمانه سما روم نوح إيمانه وقت قسطنطينية اسطنبول يقول كلا فرطو بإيمانه سما marka adigu aad ruuf aad ku jirtid oo xaaladu kugu xun tahay markaas la rabaa inaad mustaqbal qurux badan ka fakartid markaas ayaa la rabaa in aad mustaqbal qurux badan ka fakari kartid conceptiga visual search waa intaas walaalkay wax kala ma wixii qurux badan oo aamaleysatidna ilaahay wuxuu ku balan qaaday qurux iyo xumaanba wixii aamaleysatid maxaa lagu balan qaaday inay dhici doonaan Soomaa rasuulku asagoo arinta la fariyo muxuu yiri tafaalu bil hasan yani tafaalu bil khayr meel xadiiskii kan تجدوه وروح في عن سويرته والهلس أنا أنت بلادو دكشنري لا تدوايا تفاءلوا بالخير تجدوه سما الحديث دولالكي وما بحنا الشيخ إنه معناك العقوبية لأرنتاس بكوز دين تعديل لا يا شيخ وحقوق السينما سكلا من قنيص هرك إيمان شوف دين دوما قارت الشيخ هو مربو أديو كلاها وقضبلا أنتوا عربي قبرتي مفسريني ما فاهم سا marka laga hadlayo visualization-ku madiinta ka hor imaanaysa marka leedahay waxanuusan tahay ilaahu caafimaadkiisa baa ku ducaysanaysa allahumma ashfi anta shaafi Soomaa baa ku ducaysanaysa xaalad waxa ku jirta xanuun ah maxaa ku ducaysanaysa xaalad ka duwan inay dhacdo oo caafimaad ah way dhacdaa Soomaa marka loo aftirshku waa intaas la faahfaahiyay marka وأنت أصلا ربوا إلى آمنات قدرتي أما بليف قدرتي وآمنات دبها قدرتي وأعرف صلاة الذي سقادنا يو قرآنك مركو قف حنوصل له آخرية والله غلق قصتي دو أودن وكعاف مالي مسجر باركتي وحبنا صما بدن بعرفت نقف أنت قرآن وآخرية كعاف مالي وكعية وتي بزنس أنبع أنت كذا سنة wadaadada shifada iskale soo moog dadkina lacag wali ka qaadaan business wali inay tahay milyaneer inay yihiin moogta ruqyada dadka sameeyo shifooyinka iyo dadka quraan ku akhriyay dad badan oo ku caafimaad way jiraan wax badan oo ku dardarana way jiraan oo lagu dardaro laakiin in reality waxaynu rumaysanahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam in uu waxa la yiraahdo uu ila faray ducada xataa waxa jirta xadiis dhan oo dheer oo laga qoray asxaab dhuntay وتدبس صحابي هنا تدبس صحابي ويجوا كسر نقطة يا سفر بيومين كدي ويرفعدين ويجاتشودين ميل خير بيكسو بيج ميان خير كمان كيكسو بيج مان صحابة ده خير كيكسو بيج من قف كحنون سنة فقرنا ساسوما قف كحنون سنة هيا صحابي كم يقول كي ويرا هيا وكو آخرنا يا قرآن كدي من إلهي بوح بريان نكاس عاف ماذا نكينو عاف ماذا دونه كدي من اللسين دونه lacag iyo cunto iyo la siin doono markaas ay leeyihiin arinta ay isku qabanayaan arintan ma arin saxaam soo arin khalad aan sameeyay kadib ay nabiga u la imaanayaan marka Madiina ku soo noqdaan ilaahay rasuulka ilaahay arintaas aan la kulanay markaas uu leeyahay ina xiga keentaan baa riwaayad la cuni lahaa
soma xoolaha iyo hantida laydinku siiyey war xalaalnimo way dhaaftay aniga wax iga siiya what is that all about marka waaya muxuu saxaabigan sameeyay wuxuu rumaysnaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofkan caafin karo ilaahay buu ka rajeeyay qofkan inuu caafiyo laftirashku waa intaas jeebka kaa xun ilaah waxaan kaa rajaynayaa jeebkii hagaaji way laftirashku wax kala maaha duruufta ku haysata dhibaatooyinku haysta ilaah waxaan kaa rajaynayaa duruuftan dhibaatooyinkan iga saar way laakiin maxaa la rabaa wixii in detail loo sameeyo oo formula laga dhigo oo dariiq loo maro la yeesho oo qaab wixii si ay ugu shaqayso loo xaqiijiyo in la maro ayaa la rabaa marka qodobku ugu weyn wuxuu yahay maxaan kusoo kulnay ask believe receive soo maaha dalba aamin waa helaysaa soo maaha qodobka dhexe weeye marka meesha bahasha u dhimanayso oo ah aaminka saxaabigana wuxuu rumaysnaa marka wuxuu aaminsanaa in quraanka lagu caafimaadayo ilaahayna wuxuu yiraahday war waxaad iga filatid baa dhacaya ilaahay muxuu ka fishay saxaabigani inuu qofkan quraanka ku caafimaado soo ma arkin qof intuu quraan lagu akhriyo lagala qusto qofka shaki baa ku jira wuxuu leeyahay quraankaani wax kuma taraye waxa u baahan tahay doctor obsiye in lagu geeyo ama doctor hebel in lagu geeyo quraankii ku socda hadda wuu qorsheynayaa dhakhtarkii loo geyn lahaa wuu qorsheynayaa diiday qofka inuu quraanku caafimaadayo ducada shuruud beelada shuruudeedu ugu weyn ducada waxa weeye aaminaada wax kala ma marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inay soo baxaan dad culummo ah oo ixtiraamka culumnimo loo hayo oo arrintan fahamsan oo dadka masaakiinta ah iyo bulshadeena fahamsiiya sababtoo haddii bulshadeena la fahamsiiyo wax badan way yaraan lahay abaaraha dalka soo noqnoqna way yaraan lahay shaqo la'aanta dhalinyarada haysta way yaraan lahay xumada qofku inuu qof dilo maxaa keenaya inaad qof dhan oo bini aadan inaad dishid ku dhiiratid maxaa keenaya han yarida keenaysa caqiida yarida keenaysa inaad dagaal qabiil ka qayb gashid ama dagaal diimeed ka qayb gashid maxaa keenaya han yarida keenay qofku han male in waxa la yiraahdo tuuganimo lagu dhiirto oo qof kale aad habeenkii telefoon ka qaadid ama wadada u gashid maxaa keenaya han yarida keenaya hadii marka dadkeena hanka laga dhis lahaa oo qofka qiimo loo yeeli lahaa oo loo oran lahaa war heede khayr Allah ku siiye qiimo weyn baad leedahay sirtaan ilaahigaabaa jirto ilaahay adiga kuu sameeyey ka faa'iidayso oo qaabkaan u fakar oo caqligaaga sidaan u dhis yaa wax laga maqlaa soomaalida maanta runbaa fiican yaa wax laga maqlaa culimada wax laga maqlaa sheekha marka soomaaliya oo dhan la isku soo qaado loogu jecel yahay waa sheekheen waa sheekh mustafa waa loo jecel yahay because arrimahaanu ka hadlaa soo bar cajalada sheekh mustafa adiga xaalay afkayga ha aaminin jacaylka sheekh mustafa loo qabo maxay ka imaanaysaa كيك معنا فهم أنا فهمت بالربع العلماء كلا كمان علم بني جزء موضوعي للربع إن بالشدة كراح الله أيوه حكتها تعبتا which I wish إنه يسوون more كسي حال الله عندنا قبل because علماء وين رجيسنا ذاتك قضية الرقمات اسمه ده ولا رجيستا ذاتك سياسة يعني ما كنت ولا رجيست أنت بدل ذاتك I think إنه حفصة أحد تيم كانوا كجرتا يا شري واحد يسوق قريسي gabar ay YouTube ku soo aragtay oo ka sheekeynaysa qisa ah ma kan ay gabadha aragteen qisa ah ninka ay hadda caruurta u dhashay isqabaan ayadoo aan guursan inay sawiratay ninkaasi aragtay inay visual script ayagoo ninkaas guursaday caruur badan dhashay nimco ku nool yihiin nolol qurux badan ku nool bay sawiratay hatta maacuun ay soo gadatay ay ka sheekeynaysa in caadi oo dhowr bilood kaliya is yaqaanaan halka ay ku aragtay kadib ninkii ayuu isguursatay caruur badan u dhashay qisadii ka sheekeynaysaa soo ma mala socotaan dad bay uga sheekeynaysaa sheekadii marka ma laga dhegeysanayo marka ama waa lala yaabaya ama waa lagu qosliyaa ama maasha allah baa looga baxaya soo ma qofka ugu fiican muxuu samaynayaa qofka ugu fiican muxuu ka baxayaa maasha allah allah isku barakee sax فهرنتي تاوي كويتاي محلو بينا تراني how can you do exactly the same okay gabadhaas ninkaas rabtay is guursana ilmahaas rabtay inay heshiin nolosha soo maaha anu maxaan rabaa maxay sameeyay sameyn karaa formulada waa inay qaadan karto si aan ugu hesho dadka intooda badan ka arintan ma aaminayaan why loo aamin waaye that's the biggest question in laga joogo ما شاء الله ما سنة جنة الحديث كسبة مهم maxaa keenaya marka in dadka qaybna arintan ay aaminaan qaybna ayagoo og in waxaan wax ayagana aan ficil lahaa ay tahay inaysan ka hadlin
qaybna ay ka hadasho maxaa keenaya marka okay in wax la aaminsanaado waxna la aaminsanaan waaye maxaa keenaya daasta u dhigno warka cilmi yari iyo jaahilnimo aqoon la'aan ereyga nafta isticmaal conceptigu waa kaas haddii marka dadku ay aqoon lahaayeen sheekadan inay sheeko shaqeynaysa tahay sheekadan sheeko jirta ay tahay sheekadana sheeko dad badan u shaqeysa ay tahay sheeko asxaabtii u shaqeysa tahay sheeko rususha u shaqeysa tahay sheeko annaga nala barayay ay tahay haddii dadka la fahamsiin lahaa oo topic laga dhigi lahaa iskuulka lagu baran lahaa malcaamada lagu baran lahaa khudbadaha jimcaha lagu soo qaadan lahaa tusaalayaal qisooyin shaqeeye lasoo bandhigi lahaa do you think in soomaalida loo tugsan lahaa caalamka iyo waddamada islaamka iyo afrikada iyo dhulkaana maalin walba waxaana loo soo tugsadaa qaramada sheekada mariyaa tahay nimankii dagaalku ka socday Ukraine markii anaga sadaqada noo keenay ka hor nimankii madfac iyo hoog iyo baa ku socday markii anaga sadaqa noo keeneen qamadi iyo bariis ka hor wax jira way waa baari kartaa macaamadu ugu badneed oo soo gaarto Soomaaliya waxa ka timi Ukraine ka timi last year macna lagu saleynayaa waxa lagu saleynayaa dadka wixii wax ka dhigi lahaa baa la barin ما عثمان وساس ما عثمان وحلي شيكلا waxa ka horeeyay shaqooyin badan oo feega dadkuna ay ku wareereen saas ma 99% dadku sheekadan ma gabad sheekala xiriir karta oo iyadoo kala ay dad loo soo bandhigi kareen ma jirta adigu sheekala oo shekala xiriir karta waliga ma lagu soo bandhig oo soo yar eeg xataa no what you don't know wixii aadan ogeyn ma ogid so qofku wixii uusan ogeyn oo dhan maxay tahay qofku wuxuu ogeyn oo dhan cadow u yaqaan waxa filayaa maama carabiga ma ahayd mise kelmad carabiya oo qaabka u dhigan baa jirta wixii aadan aqoon cadow bay ku yihiin kelmadda u dhigmaysa ayaa jirta waana hadda xasuusano mise xadiis bay ahayd yaanan khalad galin kelmadda u eeg baa jirta calaa yaxal yes lil-insaanu caduwun limaa yajhal saasay soo maa insaanku wuxuusan aqoon cadow u yaqaanaa marka baashu meesha ugu muhiimsan ee la doonaya inay xoogga saartaan maxay noqonaysaa waa ku dheeraanay suunka lana seshinna way furmatay suuqyadiina waa dhaqaaqayaan nimanyahow qodobada baara oo xukunka indha adayga iska daa oo seeflaboodkiina arrimaha qaybtoodka boodid iska daa wax cusub marka lagu sheego aqoontaada bis okay muxuu yahay waxa la yidhaahdo aaminaadda mina shay rumaysan tahay waxa opposite-kiisa muxuu yahay opposite-kiisa waa cabsi si kale markaan waxaanan rumaysnayn oo dhan opposite-kiisa waxa automatically jooga cabsi baa joogta dadka qayb baa markii la dhaho aamin la'aan ma dhahayno cabsi waaye say trade-kan ku dabaqaynaa dad soo ma jiraan hadda trade-ka all fears ka soo adkaaday cabsihii trade-ka oo dhan fear of missing out fear of jumping gun fear of leaving money on the table dad badan oo ka soo wada adkaaday soo ma jiraan ya dadkaas waxay dhiseen beliefka maxaa lagu dhisaa aqoon haddaba opposite-ka qofkaas maanta traderka ah ee all cabsi ka soo gudbay waa qof wax soo bartay wax soo baaray aqoon kaga gudbay aqoontu maxay siinaysaa marka aqoontu maxay siinaysaa aaminaad inuu aamino tradekan nus waxba yeeli karin inuu aamino tradekan ama isal buu ku dhacayaa xoogaa yaroo aan ugu talagalay iga qaadanayaa ama tb buu ku dhacayaayo akoonkaygi wax balaa ku dareemaya laakiin horeba ii yar wadaya sooma waa one of your reality sooma qaybtiin reality baa arrintaas idinta bedelkeeda marka isdaba maray sheekada dadka law obstructionka iyo qodobada la midka ah aan rumaysnayn cabsi ayaa ku jirta laakiin afka kama oran karaan waa baqaya oo leeyahay mawduucyada qaybtood ama cutubyada qaybtood ama sheekooyinka qaybtood soomaalida sideeda ha kusoo turjumi nin baa hadda kor entrepreneur ahay dad barweyn dhiiri geliyo xamaasaysan yahay habsaan maxaan ka baqnaa firxniyood baan leenahay yala soo istaageen habsaan waa samayn karta yaa ku yiri waa habsanaya ma waxa lagu sheekeeyay dadka yaa baqa xagee lagu aragta anagoo baqayno dagaal baa lagu qaaday ninkii
marka asagu qiireysay wuxuu isleeyahay do not be afraid ki gaaladu soo maqlan ogtahay motivational speech soo dhageystay motivational speaker dhahaya don't be afraid you can do this soo dhageystay Soomaalida buu yiri ha cabsan walaal xagee yaa ku yiri oo cabsada horta yaa suuraysateen oo ku yiri oo cabsada xagee cabsideeda ku arag dagaal baa ninkii lagu qaaday marka 90% dadku marka af Ingiriiska wax lagu aqrinayo qaabka cabsida looga hadlayo iyo marka qof Soomaali la sheekeynaysa qaabka cabsida looga hadlayo kala duwan marka kelmad ka duwan oo isticmaalay ahayd fear way noqonaysaa af Ingiriis marka la joogo laakiin Soomaalida dhexdeeda marka la joogo exactly wixii ma turjumi karto Cabdishakuur ayaa dhawid la joogay oo turjumaana oo dhalinyaro badan oo qorayaal oo buugaagta turjumo oo Hargeysa Soomaaliland joogana ku xiran ayaan arintan uga sheekeynay waxaan akhriyay baan ku lahaa buugga Think and Grow Rich oo af Soomaaliya arkay hadda sida loo turjumay waa aragteen mawduucyada qayba istiidiidan Soomaali oo markay kii Ingiriiska akhrisay kii Soomaaliga marka akhrisid qofka waxa dareemaysaa inuu automatically buugii word by word soo turjumo hadaa marka turjumaan tahay ama mustaqbalka artina wax turjumtid cidda wax u turjumaysid waa inaad fiirisiyay waa qolo nooceeya luuqad nooceeya ku hadla qaab nooceeya nolosha u arkaan arrimaha qaybtood sidee u fahmaan marka conceptiga buugga soo qaad laakiin sida aad dadka ugu sheegi lahayd si ka yara duwan ugu sheeg oo dhinacyo kale ka soo mar oo meesha dhiilaha ha cabsan waxaad tiraahdaa waxyaalaha aadan aqoon raadi oo baaritaan badan ka sameey oo marka iyaga baratid ku dhaqan laakiin adigoo aan baran oo aan baaritaan ka sameyn hadii aad ku dhaqan istiraadid way kugu adkaan doontaa inaad ku dhaqantid inta marka la soo koobo Ingiriiska maxay noqonaysaa it's feared waa cabsida aan ka hadlayno waa cabsida aan ka hadlayno laakiin qof Soomaaliyeed ku tiraahdo ha cabsan waa sheekadii ahayd oo kale cagaha wax ka day hadaa qof cadaan u turjunto ka war عقاب واحد أبو قف صومالي قف عدالة وترجمة في إنجليزي ما سعرنا تصوم ساسو كلاوي قطب بتاعك عندنا ده بدون فهم لها أو مدة بتبادل لها أو ودن كأنه هرق ود لها ما سيد كأي صح أسوق جاري وورك وفهم لها ميل خدم بورك اللي جسوا جارتي وعركتي علي بدون واحد في صومالي جلت من إنجليزي وترجمة عدتها ما حسنا لكن اللي هذا نيجي اللي يرى فنان كعين شيء ما قاعد نقول فنان بواحد حق ما يكون شنطة كله يحتوي بلعب دتك إنه كخصيصية يوتيوب كأيه فيديو يلا قدوج مركا وحي الإنجليز كان دتك برايا يا إنجليز كان دتك برايا شيء أو كوميدي لغة لها وأنا كيف فاهم زين كوميدي تايو إذا لو تركي سويت كخصيصية كأيه هذا فاهم إذا مركا دتك إنجليز كانوا برا دت قف كانوا كلها بدي إذا حسوق إنني أنا بدي أسوق الحقوق عفارة كبح أمان يسيبه سمع don't enter my ocean بتاعي ناس أوتوسا don't enter the ocean وعهدتي يوتيوب كانوا يقولوا كنت بتعمل عليه وزور هذه كرتا معناها بحوسه معي بطي إذا كبح يوم أفرايك سوق إني معلم يا عم بقول عنه كهذا ما هو كذا عادي بقول له don't enter my ocean قضبة مركو حاجة مركو الله فسير أيه أن literal لو فسير كريم وأباحن concept in la soo qaato kadibna qofka aan wax sharaxaysid luqad iyo qaab wax ku fahmayo oo wax fahamsiis marka la soo wada koobo ama long story short mawduucan personal development mawduucan hadda ku mashquulsan ee law abstraction because waa ka gudbi doonaa mawduucyo ka waaweyn baa jira inaguna law abstraction baa naqaanaa ee ka sheekeyna meesha uma joogno waxaan meesha u joognaa inaad taajiriin noqotaan waxaan meesha u joognaa inaad dad bulshada dhexdeeda mansab kule oo magac sare kule noqotaan waxaan meesha u joognaa inaad wax soo saar samaysaan waxaan meesha u joognaa inaad noqotaan dad tayo leh oo ummaddeena wax ku kordhin kara markii ay lacag shaqaystaan si waxaas oo dhan loo gaaro marka si waxaas oo dhan loo gaaro waxaa jira qaacidooyin iyo formulooyin hal mar inaad maqashid kaaga baahan practice yar kaaga baahan kadibna caado aad ka dhigayso noloshaada aad ku dabaqo dan wixii loo socday maaha in caadadan iyo sida loo barto iyo maalin kasta in lagu meeraysta maaha because already teamkiida ka horreeyay 50% kamid law abstraction uu shaqeeya ilaa qaybtooda waxyaalo fooq caqliya ay ku heleen marka arrimahan marka laga hadlayo ama quraanka iyo diinta lagula noqdo ama dhaqanka iyo dabeecadaheena lagula noqdo ama xataa dee bugaagtan inuu akhrino af Ingiriis ku qoran lagula noqdo concept uu isku soo biishbanaya si aad shaygan ugu dhaqantid ama u aamintid inuu wax kuu shaqeynayo yahay adiga bas mon routine inuu kuu shaqeeyo arta Soomaa
ina iska kackacdo xama kordhinayso waa inaad dhistid aaminaad ah in morning routine ku wax fiican ku yahay aaminaadda markaad dhistiin lagu kiciyo ma baahanaysa imise qof baa hadda kasoo gudbay alarmkii كنت إيش كده الألارم كسر قلت تطبق كنت بيا الألارم خلاص عيارو قلت الألارم ولا قلت بيا ده وحي نقول شراء الألارم لا أنك عيا صباح كستشانت وإحنا قد قلت فلما أروح قعسو تحي الألارم قدرت تسبقوا كعسى الألارم يجي بعدك كذا قيلي يرداك سو كعسى ما أنا ما أقول حاجة مركا بحاك هنا ينو الألارم لا أنقف كان كوبا وحو آمني إن أرنتان صباح ذا كعيا saddexdii beriyo kacay afartii beriyo kacay shantii beriyo kacay inuu ka bartay fikradda ah inay arrin isaga dan ugu jirto ay tahay next time wuxuu bilaabayaa inuu alarmigii ka horkaco oo uu dhaqan geliyo law of attraction waa sidaas oo kale qodobada kale iyo cutubiyada kale aynu ka hadlayno marka hore ay kugu sirsiriigan tahay oo kugu taagtaagan tahay arrintu oo aadan si fiican u fahmayn waxa weeye aqoonta waxaa ka leedahay yar aqoonteeda dhis aqoonteeda markaa dhistid ku celcelin badan samaysid oo ku fududaanaysa okay waxaan rajaynayaa inaad arrimahaas runtii kala fahanteen challenge yar baan siinayaa hadda waxaa sawirataa challenge yar baan siinayaa la sii shanta kacdaa bas anigu shantan kacaa sometimes waxaa arkaa 5 iyo 17 5 iyo 20 5 iyo barnaan message idin soo diro because marka hore ka kaco telefoon kuma orda aniga marka hore ka kaco steps ugu horeeyo aan sameeyo marka saas uga kaco sariirteeda waxaan jecelahay inaan horta ducaysatid oo ilaahay u mahad celisina saak soo kacday telefoon laguma orda marka kadib suuliga la tagaa waa la caleedaa waa la wajiga la dhaqdaa haddii laakiin aad sariirta sii joogtid waa ku noqonaya hurdada for sure waay kada hore ka kacda oo suuliga leer weyn ugu xiran leerka suuliga isku daartid kadibna caleed bilowdid wax kastoo la akhriyo ma noqonays exercise way adigu subaxda hore markaa kacdina isla markaa hore kacdaytid oo aadan kafeega kadib iyo hadhow sugin way ku anfacaysaa moogta kadibna leer hadda isku daartay oo cadayatay oo waji dhaqatay oo weesaysatay xataa salaadda haddaan la gaarin waxa weeye waad kacays marka 10 daqiiqo 15 daqiiqo sometimes 8 daqiiqo laga yaabaa inay processka heerka aan ku maro hadhow markaan jikada joogo kafeeya samaysanayo markaas baan idiin soo qoraa si wax wanaagsan iyo saytiin waa nafsaha oo fahmsan maamulay marka here's a challenge aan rabo inaan ku siiyo waxa sawiro habeenkii markaad seexanaysid waxaa sawirataa adoo kacaya adoo cadayanaya adoo leerkii daaraya adoo waxaad sawiro exactly visualize garee kadibna waxaad shanta hadduu alarmku ugu xiran yahay afarta iyo konton iyo sideed inaad kacaysa sawir afarta iyo konton iyo sideed waxaa sawirataa adoo soo jeeda in alarmga damin doonto can you do challenge guys waa in challenge garaynaya afarta haddaa kacay 3 minutes before shanta haddaa kacay 3 minutes before arrintaa tijaabi it is like a magic ba u shaqaysa haddii marka wax yar oo basiida oo arrimaha ku saabsan caqligaagu awood intaa leeyahay inuu sidaa u manipulate gareeyo imagine markii hadhow laga hadlo lacag iyo horumar iyo guul iyo safaro iyo qoysas iyo arrimo weyn marka laga hadlana ka hor waa tii oo kor loo qaada keliya marka waxaan kaa rabaa xilliga aad kici lahayd 4 daqiiqo 3 daqiiqo ka hor waxaa sawirataa adoo kacay adoo soo jeedana damin doona waxa la yidhaahdo magaciisiga alarmi طبعا dadku isku saacad isku waqti maaha waxa u baahan tahay adiga salaada subax 30 daqiiqo hor inaad kacdo aniga talaada ay garab moon routine ugu fiican waqtigaas salaada subax inay ka dambaysaa fiican exercise-yada iyo waxa sameynayso haddii laakiin saddexda kacdi salaada subaxna 2 saac ka dhimanta 2 saac maxaa qabanaysaa saacadaas salaada subax 30 daqiiqo hor inaad kacdo baa ku fiican si adoo fresh ah oo energy haya oo kafeeya cabay salaada tukatid kadibna waxa weeye aad exercise-kaaga iyo morning routine-kaaga iyo buuqaaskaaga waxaa bilowday haddii marka magaalada 5 iyo bar la tukado uma baahna inaad 3 kacdid iyo 4 toon maxaa kugu filan maadaama 5 iyo bar la tukado 5 iyo 10 inaad kacdid 20 daqiiqo kugu filan weeso iyo caday iyo diyaar garow kugu filan soo ma garan marka wax filayaa inay fahamteen warbixintaas ku kooban yahay janagalayaal insha Allah oo fadhinaa suuqa waan joognaa asxaabta aan ku jirin waxa la yiraahdo tabbu luuqanaas fadlan message soo dir saan luuqa kugu soo dir adigana wayna wada joognaa insha Allah recording-kana waan soo gelin doonaa waa sax waa maadaama zoom-kiisa inta gelin hadduu zoom-kan yara dheeraado waa ugu talagalnayo
waxyaalaha badan inaan ku wada dhex darna ayaan ku talagalnay insha allah groupka yarka morning routine waa beriga ahna haddii gelinka hore la dhaafo waxbaa ku qorqoranina waxay noo soo wada wareejisaan kulligeen waxay noo soo wareejisaan gruubyadeena caadiga si aan tariirka iyo arrimaha uga sheekaysano Mr. Yaasiin maanta oo dhan hadalkaas soo celcelinaya inaan ka gudbo mar rabo ustaad wuxuu yidhi law of attraction facilitation ka waqti gooni ah miyaa samaysaa oo markaa morning routine-ka maalinta xilligaad rabtid iyo meeshaad rabtid baa ku samayn kartaa laba qaab oo samayn kartaa dabcan sumamka hore oo duubanna way ku jiraan qaab waxa waaye inaad horta samaysatid fishing board waxa la dhaho oo zoomka fishing boardka waa soo daawatay soo maaha karaa lahaada anoo zoomka dhameeyay inaan su-aasha ku noqonay because 80 jeer baa hadalka soo celceliyay ninka odayga visualization ka samayn kartaa waxa horta loo qorin laba visualize gareyn karo so haddii aragto qoraalka inaad hadhow akhrisato ma baahnayd buug yar oo waxaad soo gadataa aad ku qortid waxa aad doonaysid inaad heshid so shay kasta markaa ciwaankiisa qortid fikrad un shaygaa ku saabsan oo madaxaaga soo gelin soo maaha fikradaas sii detail garee marka lasi hadda waxaad rabtaa inaad visualize gareysa adoo aroortii kacaya so visualization noocaas oo kale wuxuu u baahan yahay feedkii soo maaha ama evening routine soo maaha ayuu u baahan yahay so feedkii waa inay jirto 10 daqiiqo 20 daqiiqo oo aad hurdo isku soo diyaarisay oo dharka hurdada aad qabtid oo meeshii aad seexanay agteeda aad joogtid oo aad sawiranaysid adoo beris wax kacaya qaabka u kacaysid waxyaalaha samaynaysid qoraal yaraa marka la sameeya saacadda kacsi wax la soo kadibna waxaad arkaysaa adoo subaxdii kacaya tusaale waxaan ku siinayaa visualization cajiib ah aynu dhammaanteen samayno weligeenna samayn jirnay cidnana aysan kuu sheegin inaad samaysid waxaa ka mid ah ciidaha waa xasuustaan soo maalinka ciidka subaxda ciidda micid baa ku kicisa ninkii saaka hurdaa la tagtay miyaa la maqlaa markii la yaryahay waa may why is it so special ana subaxda ciidda kacay because wax kastaa kuu sawiran waxaa kuu sawiran dharka xiran doontid waxaa kuu sawiran meeshaa tegi doontid waxaa kuu sawiran asxaabta israaci doontaan war qayb waxaa u sawiran dadka suuliga xiligu geli doona because qofku la belasaya xili kale imagine haddaa subax walba ciid ka dhigaysid haddaa subax walba wax isaaratid ka waran saa u leedahay ciidda waxbaa sukaa saaran waxaa soo raaca dadka qurbaha joogayaa laga yaabaa inay arrintan yara fahmi karaan waxaa soo raaca marka interview ballan ku leedahay oo kala meel subaxda ogtahay inaad beriis wax interview leedahay xataa habeenkii game baa ciyaaraya baashaal baa aadayayo kugu socon mayso subaxdii saacad 2 saac kahor baa sii kacaysaa xataa adoo saamaleelay oo markaa sariirta tagtay excited ahaayo hurda kaa imaan weyday haddana subaxdii hurda inay kula tagto ka yeeli mayso waxaa leedahay miyo 2 saac keliya xalay seexday oo maxaa 2 saac keliya ku soconiyo xalay oo interview baan lahayn ka walwalayo oo dasaaka hurda kuna mutaysa in la tagtaa interview baan malahay what happened there wixii baa kuu sawiran su-aasha lagu weydiin doonaa kuu sawiran saa uga jawaabi doontid baa kuu sawiran hadalkaa dhigi doontid baa kuu sawiran waxna marka shay muhiim kuu yahay visualization baa la sameeyaa sheekh baan ka maqlay macallin baa ka maqlay baa u baahan khasab baa visualization u samaynaysa haddii shaygu muhiim kuu yahay your first flight ma xasuustaa flightkaagi kugu horreeyey safarkaaga subaxdaa safar weyn aada sidoo diyaarad aad waddan fog ku qaadanaysid dhan baa kuu sawiran saa u kacaysid meeshaa ka dhacaysid marka aniga waxa nolosha oo dhan weeye dee marka tan lacag barata inaad shaqaysato maaha lacagtii adoo shaqaystay oo ku naaloonaya oo waxa loo yaqaano wixii aad ardada qofka madadarada wuxuu weydiinaya macallin waxaan rabaa buu yidhi inaan guri u dhiso familkayga guri kiraa baan deganah sidee arrintaa visualization u samayn karaa wish inuu qofkaasi jaad ka soo hadlaa do you want me to tell you waxaa ninkaa u sheega idiin sheega macallin waxaan rabaa buu guri kiraa baan ku jirnaa inaan guri dhisano aan leenahay aniguna aan sababteeda lahaadee sidee ayaan u samayn karaa visualization waxaan ku yidhi si aad emotion u dhistid dadka gurigaas dartooda dhisay simanooli yahaa sababta kale waalidkaaga kale hooyadaa kale waxaa sawirtaa adoo gurigii gaday deetana allabari la samaynayo oo la quraan la akhrisanayo ari la qalanayo oo loo fadhiyo farxaddii ahayd inaa gurigaa gaday arin tokabood lacag kama hadlin shaqo kama hadlin buugbuugkiyo digdig kale kama hadlin waa wax very simple samaynaa sawirati maalin xaflad la haysto oo keeg yaallo oo hilib yaallo oo darisku joogaan oo qaraabadu joogaan oo absiyaal iyo adeero waa hor idinku dambeysay in soo booqayo oo la isweydiinayo waa la isku yimaanta because ninkii hebel ahaabaa xaafadda gurigaan u gadayo saas darteed baanu allabarigaan u haysanaa waxa wax la sawiran kara soo maa xataa waxaad sawiran kartaa cuntada la cunayo siday u eg tahay miisaska meesha yaalla
gurigii sheekada waa ka leexin your subconscious mind waxay kugu khasbaysaa eventiga inuu dhaco eventigaas uu dhaco maxaa ku khasban tahay inaad lacag shaqaysid lacagta markaa shaqaysid maxaa ku khasban tahay inaadan cunayn ku kibrin ku ciyaarin ururisid markaa ururisid kadib maxaa ku khasban tahay gurigii inaad ku kadib dan adoo dhex fadhiya aad arkaysaa sheekada so everything aad inaad visualize garaysid marka qaabkaas exactly qaabkaa inaad samaysid marka visualization saasaa loo sameeyaa inaad wixii qortid muhiimadda yeelanaysa wixii markaa qortid oo buug iyo qalin iyo kalifaad baa samaysa inaad daabacdid waaba kasii daranta oo aad guriga ku dhegdhegsatid boorar arrimihii wixii dhan inaad samaysid because waxaa marka aragtid detailkii baa madaxa ka sawiranaysa okay detailkii ayaa madaxa ka sawiranaysa arrimihii oo dhacaya si ay marka howlaha kugu fududaadaan waxyaala yaryar ku bilow wax tusaale kale $500 ku baxayso $500 waxaa keeni karta soo maaha هدف $500 expenses كسو نقول يقبله هدف كله $200 expenses كسو ما أنت $200 جلوسي ما حقهم يبسناه حتى كام أكون أقول قدامه حتى وحكام تزهق ودي $200 جلوسي أقول قدامه ميس أو كنا thank you so much ميس بارت $200 مية إن أفسير حبيس سما كبلو كاس كوري لدسي شكله وفكته ميس كعادة سمستي سوم هذا كذا سوتشره وحيانا نوعا سكرا كمبيوتر كوغير حماده سمها كمبيوتر كدوان يارتين سمها كمبيوتر يوتيوب جوجل سورة بدن كسوقات dadka isticmaalaya wareyso ma dadka haysta waxyaalo ku fiican ya ka amaanaya soo ogo lacal adoo haysta oo computer ku shaqeynaya sawiro marka computer ku shaqeynaysa dadka aad uga sheekeynaysa sawiro and then talk to me for few weeks kadib ama dhowr bari kadib ya dhowr bari kadib ila sheekeysa markaas ahab inaad fahamtay qaabka loo sameynayo visualization-ka in waxyaalaha yaryar lagu bilaabo waxay kaa saacidaysaa inaa waxyaalaha waaweyn rumaysnaatid so qofku marka Soomaalidu waa taqaanaa marka la visualization samee anoo diyaarad ka timaar rabaa kaaga bilaabay weligaaba diyaarad maadan gadanaa xagga ugu bootay aad gorto baaskiilka bilow sheekhay naftu dhis aaminaad dhis wallahi anoo diyaarad private jet baan anigu rabaa walaalkay weligaa xataa tigid maadan jaraarta tigid diyaaradeedoo jigjigay aad horta ka sheekay so hadhow wuxuu rabaa waxaan inuu ceebeeyo oo dhaho arrintan ma shaqaynayso hadda formuladii iyo dariiqii iyo qaabku u marayna waa ka khaldan yihiin war ma wadi karnee waa salaamaya nimayan waa salaamaya kulligiinba guulaysta janagalayaal ilaahayna barakeeyo ma ka daali doono inaan wax idin sheego ma ka daali doono inaan qodob ku soo celceliyo ma ka daali doono inaan wax kasta isku dhex wano tradingka fundamentalka trading psychology-ga personal development-ga kobcinta hanka iyo kor u qaadista shakhsiyadaada dhinac kasta diini iyo maadiba ka daalimen inayna wadno insha Allah waxaan rajaynayaa idin ka daalin warkayga badan oo soo noqonaya oo aragtaan markii 900 hadaa maqlaysid inuu 899 jeer hore oo markaana ka sii fiican yahay inaan fahamto baan ka rabaa waan soo warkan waa maqalna macalinkan wuxuu u celcelinay aamintid in mar walba lagu sheegayo ay tahay inay tahay waxa la yaqaano angle cusub marka hab intiina dadaalaysa inaad dadaalkiina si lagu jibaartaan intiina yara caajisaysa waxaan rajaynayaa inay idan kiciyaan kuwa badan oo aad waxa loo yaqaano boorka iska jabtaan ilaahay idin barakeeyo groups-ka inoo baran insha Allah waan salaamayaa kulligiin guulaysta jannada ilaahay idin barakeeyo